Ladies and gentlemen, waa idin salaam dhamaantiin. Videogan waxaan idinku tusi doonaa markaas qaabka loo sameeyo e-commerce website step by step. Haddaba yaa uu videogan ku socdaa. Muuqaalkan waxa uu ku socdaa qof walba oo bilow ah oo daneynaya inuu website e-commerce gacantiisa ku dhiso. Haddaba si aad website e-commerce u dhisto, qasab maaha inaad experience u leedahay ama aad taqaan si e-commerce website loo sameeyo. oo videogan gab ahaantiisa waxaan ugu talagalnay markaas dadka bilowga ah ee daneynaya inay website sameeyaan gaar ahaan e-commerce website. oo dhamaadka videogan waxaad awood u yeelan doontaa markaas qaabka markaas e-commerce website loo sameeyo iyo sidoo kale inaad markaas sameyn karto website walba oo e-commerce ah. Haddaba maxaan shaaca ka qaadi doonaa videogan waxaan u kala dhignay 15 step oo step walba markaas aan qodob gaar ah uga hadli doono. Haddaba maxaan baran doonaa? Waxaan ku tusi doonaa markaas sida loo helo domain and web hosting. Step-ka labaad waxaan ku tusi doonaa sida qaybta backend-ga website-kaada loo setup gareeyo. Step-ka saddexaad waxaan ku tusi doonaa sida loo soo dego theme iyo plugins. Step-ka afraad waxaan ku tusi doonaa sida loo abuuro markaas products. Step-ka shanaad waxaan ku tusi doonaa sida page-ka home-ka markaas loo dhiso. Step-ka lixaad waxaan ku tusi doonaa sida page-ka markaas store-ka loo dhiso. Step-ka toddobaad si lamid ah waxaan ku tusi doonaa page-ka markaas about us loo dhiso. Step-ka siddeedaad waxaan ku tusi doonaa sida markaas loo dhiso page-ka contact us-ka. Step-ka sagaalaad waxaan ku tusi doonaa sida loo sameeyo markaas logo u gaar ahaan markaas ganacsigaada ama business-kaada. Step-ka tobanaad waxaan ku tusi doonaa sida markaas qaybta header-ka loo dhiso. Step-ka 11aad waxaan ku tusi doonaa sida markaas loo dhiso privacy policy page. Step-ka 12aad waxaan ku tusi doonaa sida qaybta footer-ka markaas loo dhiso. Step-ka 13aad waxaan ku tusi doonaa sida markaas payment method loogu xiro website-kaada oo dadka raba markaas inay product-kaada online ku iibsadaan qaabkii ugu iibsan karaan. Step-ka 14aad waxaan ku tusi doonaa qaabka qaabka website-kaada loogu soo daro WhatsApp live chat oo qofka raba markaas inuu kula soo xiriiro markaas halkaas kala soo xiriira. Step-ka ugu dambeeya 15aad waxaan ku tusi doonaa sida xawaaraha website-kaada kor loogu qaado oo dadka soo booqanaya website-kaada aysan wax culays dareemin. sidoo kale website-ka aan sameeyno wuxuu noqon doonaa markaas mid dadka isticmaalaya mobile iyo dadka isticmaalaya tablet si la mid ah markaasina ay si wanaagsan ugu muuqan doonaan website-kan oo waxaan arki doonaa qaabka markaas laptop, tablet iyo mobile intaba markaas uu ugu shaqeynayo. Marka aan bilowno videoga. Step koowaad waxaan u baahanahay domain and hosting. Domain and hosting waa labada waxyaabood ee markaas aan u baahanahay si aan website-kan u launch gareyno. Domain-ku waa magaca website-kaada, hosting waa goobta faalasha website-kaada ay ku kaydsan yihiin. labadan waxyaabood ayaa mar walba u baahan tahay markaas marka aad website dhisayso. Videogan waxaan ku tusi doonaa marka qaab markaas fudud lagu helo domain and hosting iyo markaas raqiis ahaan oo lacag yar markaas loogu helo domain and hosting. aan u helno marka hore tab cusub fur. Kadib markaas waxaad tagtaa webdise.com/hostgator. webdise.com waa magaca markaas website-kana kaliya waxa gadaal ka raacaysa /hostgator kadib waxaad dhahdaa enter. enter marka aad dhahdo inta ayuu ku keenayaa markaas. hostgator waa meesha aan ka heli doono domain and hosting. sababta aan hostgator u doorto wax kale maaha, inta badan website-yadeed iyaga host garayo. sidoo kale waxyaabahan ku doorto waxaa kamid ah sidoo kale qiimaha markaas waa wixii aad u raqiis ahaan. marka u bilowdo marka kaliya waxaad dhahdaa get started. get started marka dhahdo inta hadii aan hoos soo degno meeshaan wuxuu ku siinaa marka 3 balan ayuu ku siinaa. balan koobaad waxaa loo yaqaanaa hagin, sidoo kale waxa kale la dhahay pay balan iyo markaas business balan. saddexdaani balan marka mid kamid ah ayaa dooranaysaa. faa'iidada waxyaabaha kala duwan waxaa kamid ah balan koobaad waxaad ku dhisi kartaa markaas hal website laakiin wuxuu isagu ku siinaa 60% off. balan labaad waxaa ku dhisi kartaa website markaas aan xal lahayn 65% off waa qiimaha. marka maadaama anigu hadda aan rabo in hal website aan markaas aan dhisto, waxaan ku dhufanaa midkaani. waxaan leeyahay markaas buy now. marka buy now dhahdo inta ayuu ku keenayaa wuxuu ku siinayaa step. number koowaad sida meeshan ku qoran wuxuu ku leeyahay markaas waxaad doorataa markaas domain name dooro. domain-ku waan soo sheegnay waa magaca website-kaada. meeshaan ka soo qaad waxaan leeyahay web sameyn. meeshaan waxaan leeyahay markaas ka soo qaad web sameyn. markaan dhaho meeshaan horteeda fur. intaana midka aad rabta ayaad ka dooran kartaa extension-kan .com, .online, .site, .net midka aad rabto. waxaan dooranaa .com maadaama ay tahay mid common ahaan. meeshaan u jeeda hadda domain-ka waxaan ku helaynaa markaas hal sano oo free ahaan. sidoo kale domain-keenan waa la heli karaa haddii calaamadan cagaarka ay ku soo saaranto domain-kaada waa la heli karaa waa macna. hoos ayaan usoo degaynaa hadda maadaama aan domain helnay. meeshaan marka labaad wuxuu ku leeyahay waxaad ku dartaa domain-kaada privacy oo markaas lacag ay kugu siyaadinayaan.
soo marka privacy marka uma baahnid privacy wax kala ma aha email iyo waxyaabo ku soo dhaca maadaama inuu hadda aan dad caan ahayn soo uma baahnid marka xigta stepka labaad wuxuu ku leeyahay markaasi plan dooro soo balaankan soo darana waxaa loo yaqaanaa hajit soo markaan soo doorano balaanka meeshaan marka waa meesha muhiimka ah soo imisa bil ayaa rabtaa inaad lacagta aad bixiso soo 1 bil miya 3 bil miya 6 bil miya 12 bil soo hadda haddii aan ka dhigno kaba soo qaad 1 bil oon markaas hoos aan usoo degno soo halkii bil marka qiimaha waxaa ujeedaa inay 24 tahay soo waxaan ku tusayaa marka code loo yaqaano promo code markaasi ku ogolaanaya inaad markaasi discount aad hesho soo meeshaan horteeda wuxuu ku leeyahay markaasi waxaad isticmaashaa coupon code isticmaal soo coupon code ka isticmaal loo yaqaano markaasi webdisa kadibna waxaa dhahdaa markaasi meeshaan ku dhufo soo saa ujeeda hadda qiimihii waa uu ka dhaco waxaa heshay 13 soo hostigator ayaan waxaa la soo galnaa deal oo markaasi discount ayaa lagu sameynaa soo marka hadda meeshaan saa ujeeda waa bishii 13 haddii marka aadan bil rabin ay kugu badan tahay waxaad sameyn kartaa markaasi waxaad ka dhigi kartaa 12 bilood ayaa ka dhigi kartaa soo mar walba bilaha aad badsato lacagtaada way yaraanaysaa soo hadda haddii 12 bil aan ka dhigna saa ujeeda meeshaan qiimaha wuxuu noqonaa markaasi 50 ayuu noqonaa soo macnaheedu maxay u dhigantaa marka bishii laga yaaba $5 wax saas inay tahay soo marka aniga waxaan ku dhaafayaa hadda 1 bil sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa 6 bilood ka dhigi kartaa soo 6 bil haddii aan fiirino meeqa noqonaysaa 57 soo marka bilahaada markay badan yihiin lacagtaada waa yaraanaysaa soo marka xigta markaas soo halka bil ayaan ku dhaafeynaa oo 13 marka xigta wuxuu ku leeyahay hostigator dhexdeeda akoonka abuuro soo akoonka abuuro meeshan kaliya waxaa gelisaa emailkaada geli sidoo kale haddana emailkaada ayaad ku celinaysaa isla meeshan ayaad gelinaysaa soo emailkaada intii markaad geliso si lamid ah haddana inta waad gelinaysaa marka saddexaad inta passwordka ayaad gelinaysaa marka wuxuu ku leeyahay sidoo kale inta pin ka sameyso pinka wax weyn ma aha kaliya 2 lambar iska sameyso wax sida weyn ma 4 lambar waaye soo marka intaas aad sameyso nambarka afraad marka wuxuu ku leeyahay inta waxaa gelisaa macluumaadka lacag bixinta soo kaba soo qaad inta waxaad gelisaa macluumaad kaarka lacag bixinta kugu qoran haddii aad mastercard hayso magacaada koowaad kaba soo qaad sidoo kale inta company-gaan wuxuu ku leeyahay markaas waa optional soo iskaga gudub inta waxaad gelisaa markaasi phone numberkaada soo marka inta sameyso sidoo kale inta wuxuu ku leeyahay markaas waxaad gelisaa addresskaada wax kale ma aha waa markaas meesha aad degan tahay sidoo kale marka labaad addresska labaad waa optional soo iskaga boodeynaa marka kale wuxuu ku leeyahay wadan dooro soo wadanka aad doorato dooro maad aad joogto dooro soo Soomaali maadaama aad joogno Soomaali ayaan dooranayna sidoo kale magaalada aad ka joogto soo waxaan leenahay waxaan joognaa Muqdisho marka xigta markaasi gobol dooro ayuu ku leeyahay soo waxaan dooranaynaa gobolka Banaadir marka ugu dambaysa marka meeshaani zip code gali ayuu ku leeyahay soo Soomaali haddii aad joogto wax zip code ama laha soo waxaan iska leenahay non ayaan leenahay soo marka xigta meesha muhiimka ah waa tan markaas oo lacagta aad ku bixinayso soo lacagta waxaad ku bixin kartaa PayPal ama credit card soo inuu hadda credit card ayaan isticmaalaynaa maadaama aan mastercard haysano soo meeshaan waxaa gelinaysaa magaca credit cardka markaas aad haysato sidoo kale inta waxaa gelinaysaa credit card numberkaada card name-kaada marka aad geliso 3 magac sidoo kale intan numberka marka aad geliso meeshaan wuxuu ku leeyahay waxaad gelisaa CVV code soo CVV code-ka waa 3 number ay ku qoran kaarkaada soo 3 number ay maxaa sameynaysaa markaas halkaasi geli soo marka inta aad geliso sidoo kale inta wuxuu ku leeyahay waxaa gelisaa expiration date waqtiga kaarkaada uu dhacayo soo waqtiga markaas meeshaan ka dooro soo marka intaas aad sameyso meesha ugu dambaysa marka meeshaan wuxuu ku leeyahay additional service meeshaan waxyaabahan haddii la calaamad kamid ah tii ku saaran tahay tigtiga qaad marka ugu dambaysa waa kaas soo waxaana keenaa qaybta markaas lixaad wuxuu leeyahay markaas code isticmaal horaan u isticmaal mar code-kan isticmaal haddii aad rabto inaad discount aad hesho soo marka hal mar ayaan soo dul maraynaa mar koowaad waxaan dooranaa meeshaan domain ayaan soo dooranay step koowaad soo domainkeena wuxuu ahaa magac waa la heli karaa hoos ayaan usoo degnay marka kale inta tig waa ka qaadnay marka labaad meeshaan blankii caadigan aan soo dooranay waa kana soo inta marka waxaan ka dooranay 1 bil ayaan furnay aan ka dooranay marka xigta stepka saddexaad akoon ayaan ka dhex abuuranay emailkeena 2 jeer gelinay passwordka sidoo kale pin ayaan u sameysanay marka afraad inta waxaan gelinay lacagta macluumaad bixinta kale inta addresskaada sidoo kale intana markaasi kaarka maxaa la hayo magaciisa iyo macluumaadkiisa soo intaas marka aad sameyso ugu dambeyntii meeshaan ayaad markaasi tig aad saaraysaa marka tig saarto kaliya waxaa leedahay markaasi check out now soo markii check out now ay dhahdo sidan ayuu kugu soo baxaa soo waxaa ujeedaa markaasi
inay lacagtii markaasi ay ka aqbalayaan. soo lacagta saa ujeeda wanaga akoonkeena markaasi way kala baxeen. soo marka inta waxaan leenahay macluumaadkeena save ayaan leenahay emailka, sababtoo hadhow login ayaan ku leenahay ama sign in. okay, soo marka intaas aad sameyso sidan ayuu kugu soo baxaa, shaashadan ayuu keeno. soo meeshaan wuxuu ku leeyahay wax yar nooga sheeg maxaa la dhahay hadafkaada iyo waxyaabaha leedahay. soo marka waxyaabahan skip ayaan iska leenahay oo qasab wax sida qasab maaha. soo maxaan leenahay hoos ayaan usoo degaynaa, kadibna waxaan ku dhufanaynaa skip ayaan leenahay oo naga gudbi. soo meeshaan waxaa leen close ayaan leenahay oo iska xiraynaa. soo marka inta ayuu ku keenaya close markaa dhacda qaybtaada dashboardka. soo marka waxaan leenahay kaliya install WordPress. soo install WordPress markaa dhacda sidan ayuu kugu soo baxaa, kaliya waxaa ku dhuftaa meeshay ku qoran tahay install now. kadib marka inta ayuu keenaa. soo inta waa muhiim markaas macluumaadka aad gelinayso. soo meeshaan waxaad gelisaa markaasi macluumaadka markaasi WordPress sida kaba soo qaad adminka. soo aan kala saarno meesha ugu horeysa wuxuu ku leeyahay kaliya waxaad gelisaa site name, magaca website-kaada. soo waxaan hadhow waa bedeli kartaa kuwan. soo kaliya magaca website-kaada, sidoo kale site-kaada muxuu ku saabsan yahay. soo maadaama hadda uu yahay website waxaan leeyahay sida website loo sameeyo waaye. okay, marka xigta marka meesha ugu muhiimsan waa tan. soo meesha admin username iyo password u sameyso oo hadhow mar walba aad WordPress login ku dhahdo qaybta dashboardka aad ku aragto. soo meesha hore magaca geli kadibna password u sameyso. marka xigta marka wuxuu ku leeyahay meeshaan waxaa gelisaa emailka markaasi emailkaada geli. soo emailkaada hadhow gadaal waad gelin kartaa kaasi, haddana waad gelin kartaa, laakiin labada ugu horeyso username iyo passwordka waa muhiim. soo isku day inaad xasuusnaato. soo marka intaas aad sameyso kaliya waxaad sameysaa hoos soo deg. soo kadibna waxaa dhahdaa markaas install. soo saa ujeeda marka hadda waxaa noo soo degaya markaasi WordPress waa uu noo soo degayaa. soo waqti yar ayay qaadanaysaa, iska sug. okay, soo saa ujeeda marka hadda waxaa ujeeda inuu WordPress noo soo dega. markasaan saadkeena u daawano. soo meeshaan ayaad markaas waa dul tagaynaa, kadibna taab cusub ayaan furaynaa. soo hadda saa ujeeda wuxuu leeyahay marka your connection is not private. oo maxaa laga wadaa marka, macnaheedu maxay tahay? marka hore website-kaada ayaa waxay tahay inuu sameeyo wax loo yaqaan markaas propagation wax kale ma hostgator ayaa markaas waxay qaadaysaa dhammaan domain-kaada, kadibna waxay gaarsiinaysaa dhammaan serverada dunida. hey, qofkan wuxuu iibsaday domain name. soo inaa markaasi domain name iibsatay una jira ayay tusaysaa. soo laga yaabaa marka inay qaadato 20 daqiiqo. soo mar walba soo laabo oo refresh garay. soo hadda muddo kadib marka haddii aan kusoo laabano site-keena. soo saa ujeeda marka hadda site-keena markaas waxaa ujeeda inuu live yahay oo mar walba qof walba oo markaas internet ku jiro uu soo access gareyn karo ama uu soo gali karo. soo marka si aan qaybta dashboardka u galno ama website-keena ama markaasi aan qaybta dashboardka ama back-endiga markaas aan u galno. soo waxaan u baahanaa markaas inaan log gareyno. soo kaliya waxaa dhahdaa markaas /login, ama haddii kale waxaa dhihi kartaa sometimes inuu login kaadiida laga yaaba wp/admin oo u taagan markaasi WordPress/admin. soo labadaba waa isku mid. soo marka intaas aad dhahday kadib waxaa dhahdaa enter. soo marka wuxuu ku leeyahay waxaad gelisaa markaasi username-ka iyo password-ka aad soo sameysatay. soo markaan WordPress soo dejisanayna username iyo password aan soo sameysano. soo marka aad gelis kaliya waxaa dhahdaa markaasi login. soo saa ujeeda marka hadda waxaa ujeeda inuuna keena qaybta back-endiga ee website-keena. soo mar walba website-keena sidaas ayaad markaasi u login gareyn kartaa oo aad ugu gudbi kartaa qaybta back-endiga. soo inta waxaa loo yaqaanaa back-end, qaybta horena waa front, intana waa back-end. soo marka inta ayaad markaas ka maamuli kartaa website-kaada. soo markaan u gudubno step-ka labaad. soo step-ka labaad waxaan ku arkaynaa qaabka loo setup gareeyo qaybta back-endiga ee website-kaada, sidoo kale loo hagaajiyo. soo marka si aan taas u sameyno oo qaybta dashboardkeena aan u tagno markaas WordPress-ka, marka hore waxaan u baahanahay inaan markaas login dhahno markaas website-keena. soo si aad login u dhahdo kaliya meeshaan ku dhufo waxaa dhahdaa soo /login ayaad leedahay, ama sidoo kale waxaad dhigi kartaa /wp/admin haddii markaasi uu kaa diido. soo marka aad sidaan dhahda meeshaan wuxuu ku leeyahay username iyo password-kii aad soo abuuratay geli markii aan la soo degayna WordPress. username iyo password-ka aad soo abuuratay halkaan geli. soo markii aad gelisay markaas login dhe. soo markii aad login dhahdo inta ayuu keenayaa. meeshaan waxaa loo yaqaanaa markaasi back-endiga ama qaybta markaasi dashboardka ee markaasi waa WordPress website-kaada. soo marka haddaba aan aragna qaybtaani seen u hagaajin karnaa, maxay tahay markaasee u maamuli karnaa.
so aan markaas si aan u hagaajino ama aan u nadiifino oo aan u set up gareyno qaybta backend-ga ama dashboard-ka ee website-keena. So marka hore waxaan iska xireynaa waxyaabahan ku muuqdo dhan. So marka si aan taas u sameyno waxaan ku dhufanaynaa meeshan ay ku qoran tahay screen options ayaan fureynaa. kadibna markaasi meeshaan waxaan tig ka qaadaynaa dhammaan waxyaabaha markaasi tigta ay saaran tahay oo dhan. So marka xigta waxaan sameynaynaa waxaan tagaynaa markaasi qaybta setting-ka kadibna waxaan leenahay general. So meeshaan kasto waa muhiim waxaad gelaysaa meeshaan koobaad site title-ka ama ciwaanka website-kaada. So hadda website-keena maadaama magacaas uu leeyahay waan dhaafaynaa. marka labaadna meeshaan waxaan gelinaynaa tagline-ka wax markaas ciwaanka hoos imaanaya ama wax ku xigsanayo. So adiga ayaa korka arki doono marka meeshaan waxaan ku qoraynaa website-kaada maxaa uu ku saabsan yahay. So kaba soo qaad website-keena waa mid e-commerce ah markaasi ama alaabo oo gaar ah e-commerce ayaan iibinaa. So meeshaan waxaan gelinaynaa marka alaabta noocaas ay tahay. So waxaan ku qoraynaa at least 5 eray ama 6 eray. So marka waxaan leenahay marka hel isbarbaartiskii ugu dambeeyay maadaama website-keena uu noqon doono mid aan ku iibino waxyaabaha isbarbaartiska. So marka xigta meeshaan uu leeyahay anyone can register tigstar oo macnaha waxay la mid tahay qof walba ayaa markaas website-kaada soo access gareynayo oo soo gali karo oo iska diiwaan gelin karo. So marka tigaan saarayna marka ugu dambeysana marka intaan kala faraha waxa ka qaadi kartaa soo hoos soo deg kadibna waxaad adaa save changes. So marka xigta marka isla setting-ka anagoo joogna waxaan tagaynaa qaybta loo yaqaan permalinks. So meeshaan waxaan tig saaraynaa kadib ay ku qoran tahay post name. So post name-ka wax kale ma wuxuu ku siinaa tusaale page-ka aad joogto iyo markaas magac ayuu ku siinaya oo linkii koro qaybta kore ka soo muuqanayso. So marka sidaas tig ha kugu saarnaa so kadibna markaad intaas sameyso waxaa sameysaa wax yar hoos soo deg kadibna waxaad adaa save changes. So marka xigta markaasi waxaan tagaynaa qaybta markaasi profile-keena haddii markaas aan edit gareyn karno isaguna. So saan u edit gareyna marka waxaan tagaynaa haddana profile-keena saa u tagto marka waxaad ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay edit profile. So meeshaan waxaad ka bedeli kartaa markaas kaba soo qaad sida kalarkaana kaaga muuqda dhinaca bidix oo waxaa ka dhigi kartaa kalarada markaas meeshaan kaaga muuqda noocaad rabto. So aniga kan ayaan iskaga dhaafaa marka xigta meeshaan magaca ka soo muuqda haddii markaas aad rabto bedeli kartaa oo markaas nickname-ka. So marka anaga hadda waxaan rabaa inaan bedelo kaba soo qaad so waxa iskaga qortaa meeshaan magaca aad rabto kadibna inta ayaa furaysaa kadibna markaas halkaas waxaad gelinaysaa magaca ayaad ka helaysaa markaas. So kadibna marka meeshaan furto waxaa arkaysaa magaca doorto inuu halkaas ka soo muuqanayo. So marka xigta meeshaas hubi inuu email-kaada ku yaalo marka ugu dambeysana meeshaan sawir waa saaran kartaa markaas haddii aad leedahay wax markaas sawir oo wax loo yaqaan markaasi website la leeyahay gravatar ayaad markaas akoonka dhex abuuranaysaa kadibna halkaas ay sawirkaada dhigaysaa marka dhigta ayuu inta ka soo muuqanaa. So marka sawirkan iyo waxaan magacaana adiga ayaa arkaya markaasi oo markaasi admin-ka ah qof kale markaasi ma arkayo. So marka haddii markaasi aadan rabin faraha waa iskaga qaadi kartaa. So marka intaas aad sameyso soo deg kadibna waxaad dhahdaa update profile. So marka hadaba step-kaas waan gudubnay markaan u gudubno step-ka markaasi saddexaad. So step-ka saddexaad markaas waxaan ku arki doonaa qaabka markaas loola soo dego waxa la hayo theme and plugins. So marka theme-ku waa maxay plugins-kuna muxuu yahay. So theme-ku waa muuqaalka ama structure-ka website-kaada. So theme walba wax gaar ayuu leeyahay ama muuqaal gaar ayuu wataa. So muuqaalkaasi website-kaada kooban yahay ayaa waxa loo yaqaanaa theme. So marka waxaan adeegsan doonaa theme markaas casri ah. Sidoo kale plugins-ka iyaguna waxa la markaas waa application oo kale. So plugin walba waxa uu qabtaa markaas shaqo gaar ah sida application-nada markaas ay u qabtaan shaqo gaar ah. So marka ba san theme loo soo degno waxaad ku dhuftaa meeshaan ay ku qoran tahay appearance kadibna kor u deg wax yar markaas waxaad ka sii doorataa meeshaan ay ku qoran tahay ku dhufa add new kadibna meeshaan searching-ka waxaa ku qortaa markaas theme-ka aad rabto. So waxaan qoraynaa marka theme loo yaqaano Astra. So Astra marka ku qorto searching-da so theme-kan u baahnaa waa midkaani kaliya waxaa dhahdaa markaas install. marka theme-ka saan soo degto kadibna waxaad ku dhuftaa markaasi activate ayaa leedahay oo theme-ka markaasi saan u active gareyno uu nagu shaqeeyo. So marka aad la soo degto theme-ka marka xigta waxaan u baahnaa wax la plugins. So saan plugins u helno waxaan ku dhufanaynaa meeshaan ku qoran tahay plugins kadibna markaas waxaan ka sii dooranaynaa markaas add new. So add new marka aad dhahdo inta ayuu keenaa meeshaan kor marka waxaa ku qortaa plugin loo yaqaan markaas start template. So isla plugin-ka magaciisa sidaas ayuu u qoran yahay sidaan u qoro. So plugin-ka u baahnaay marka waa midkaani. So marka aragto waxaa dhahdaa install kadibna markaas waxaad dhahdaa activate.
soo markii aad plugin-ka la soo degto waxaan u baahanahay marka plugin-kani inaan markaas aragno ama aan la soo degno template-yada gudihiisa ku dhex jira. So si aan taas u sameyno marka waxaad ku dhufataa meeshan ay ku qoran tahay C library. So inta ayuu ku keenayaa meesha marka waxaad ka doorataa meeshan ay ku qoran tahay build your website now. kadib wuxuu ku leeyahay marka koowaad waxaad doorataa page builder. macnaha page builder nooca ayaad adeegsanaysaa website-kaada ku dhisaysaa. So sida caadiga ahaan inta badan dadka WordPress waxay isticmaalaan Elementor oo ah markaasi midka ugu fudud sidoo kale ugu wanaagsan. So marka isaga ayaa anagu inta badan isticmaalnaa. So marka waxaad ku dhufataa Elementor ka doora halkani. So marka dhahda meeshan wuxuu kugu siinaa marka template markaas dhowr ahan. So template-ka markaas aad u baahan tahay aad inta ka dooranaysaa. So maadaama aan rabno anagu inaan website e-commerce aan dhisano meeshan waxaan ka dooranaynaa marka hore waxaan ku dhufanaynaa meeshan ay ku qoran tahay markaas e-commerce ayaan ku dhufanaynaa. aad ku dhufatid e-commerce meeshan wuxuu ku siinaa markaasi template markaas dhowr ahan oo markaas aad u wanaagsan. So template-yada dhamaantood waxay isku jiraan qaar premium ah oo lacag iyo kuwa free. So badankooduna waxay u badan yihiin kuwa markaas free ah. So marka kaliya meeshan template-ka markaas ku anfaca ka dooro. So marka hore inta template-ka la soo degin waxaad sameyn kartaa markaasi waa daawan kartaa ama qaabkiisa ama muuqaalkiisa. So aniga hadda ka soo qaatan template-ka ayaan rabaa inaan la soo dego kaliya maxaan sameynaa waad ku dhufanaysaa. So marka aad ku dhufato template-ka sidan ayuu kugu soo baxaa. So si aad template-ka markaas u daawato waxa iska xirtaa calaamadan kaliya halkaas ku dhufo. So marka saa u jeedo kani waa template-ka markaas inagu aan u baahanahay oo aan isticmaali doono. waxyaabahan sawirkani dhammaan wax walba waa bedeli karnaa page walba magaciisa wax walba si walba. So marka uu template-ka marka sidoo kale page-ka waad ku dhufan kartaa page-ka about us ka hadaad rabto waad ku dhufan kartaa. contact us waad garan kartaa. So marka aad sidaas u dhammaan u fiiriso page-ka waxaad ku dhufataa markaasi calaamadan markaasi soo laab hadana. So marka aad soo laabto waxaad dhahdaa markaas skip and continue. So marka aad dhahdo meeshan waa muhiim wuxuu ku leeyahay marka koowaad waxaad ka doorataa markaas default colors laba midab ee markaas aad u isticmaali doonto website-kaada. So hadda saa u jeedo midabkaas ayaa noo dooran guduudka. So waad ka bedeli kartaa bluegan iyo midkaan dooran kartaa. labadaas midab oo horeeya mar walba isku beddelaa qaabka website-ka dhamaantiisu. sidoo kale meeshan markaas haddii aad u baahan tahay fonts iyaduna halkan ayaad ka dooran kartaa. So marka intaadan template-ka la soo degin ayaad markaas waxyaabahani aad dooranaysaa set up garaysanaysaa. marka aad template-ka la soo degto midabka iyo color-ka aad soo doorato ayaa isticmaalaysaa. waxaan leeyahay markaas continue. So marka meeshan su'aalo ayuu ku weydiinaa. su'aalahani qasab ma aha kaliya waxaad dhahdaa markaas submit and build my website ku dhufo. So marka halkan waxaa u jeedaa inuu website-keena dhisaayo oo template-ka noo soo degayo. So marka waan sugaynaa ilaa inta uu 100 ka gaarayo. So marka hadda waxaa u jeedaa markaas inuu template-keeni markaas aan la soo degnay oo website-keena markaas aan ku soo export garaysana template cusub. So marka si aan taas u daawano template-keena ama website-keena waxaan leenahay markaas view your website ayaan ku dhufanaynaa. So view your website marka aad ku dhufato sidan ayuu kugu soo baxayaa. kani ku muuqdo markaas waa website-keena. So saa u jeedo loogada ayaa meeshaas qoran magaca. So marka waxaan dhamaantood hadhow waan bedeli doonaa bilow ilaa ay markaas dhamaad wax walba markaas product aan leenahay aan ku soo darsan doonaa. So marka page-ki dhamaad waxyaabihii way noo soo degeen. So markaan u gudubno step-ka ku xiga. So step-ka afraad waxaan ku arki doonaa markaasi sida loo abuuro product. So product waa maxay? product wax kale ma aha. products waa alaabta ama waxa aad markaas website-kaada ku dhaxibinayso. alaabtaas ama waxaas aad ku dhaxibinayso wax walba ay noqon karaan. So haddaba si aan products u abuurno waxaad tagtaa marka hore qaybta backend ama dashboard-ka ee website-kaada. kadibna waxaad dul tagtaa markaas products dulta kadibna waxaad ka sii doorataa all products. So all products marka aad doorato meeshan waxaa noo yaala markaas products hore oo markaas template-ka hore u watay. So marka products-ka ama alaab waxaan markaas meesha ku dhex jira anaga u baahnin oo waxaan u baahnaa products cusub oo teena ah inaan abuurno qiimo u sameysano waxyaabahaas oo dhan. So marka koowaad waxaan sameynaynaa products-kan waa iska dileedeynaa. So saan u dileedna waxaan sameynaynaa marka hore waxaan ku dhufanaynaa meeshan ayaa hal mar tick saaraynaa. So marka aad tick saarto kadib inta ayaa furaysaa. marka aad inta furto waxaad ka dooranaysaa markaas move to trash ayaa leedahay kadibna waxaad ku dhufanaysaa apply.
soo markaa sida products ku dileedid waxaan kaloo dileedi doonaa markaas wax la hay categories waa noocyo ama markaasi qaybaha markaas products-ka ay sameeysan. soo marka waxaa jirta categories noo abuuran oo template-ka markaan soo dejisanayno ku soo baxay. soo categories-kan waa iska dileedeena mid anagu leenahay ayaa markaas abuuro doonaa hadhow. soo meeshan laba categories noo taalo labadooda waa iska dileedeena. waxaan sameynaynaa marka meeshan ayaan hal mar ku dhufanaynaa tigaan saaraynaa. marka aan jog saarno kadib waxaan furaynaa meeshaasi waxaan ka dooranaynaa delete. marka delete sidaas noogu doorantaa kaliya waxaan ku dhufanaynaa apply. soo marka apply aad ku dhufato hadda ayaa marka waxaan sameynaynaa waxaan abuuraynaa products. soo marka saan products cusub u abuurno waxaan ku dhufanaynaa meeshan ay ku qoran tahay add new. soo add new marka ku dhufato step koobaad ama wax koobaad uu ku weydiinayaa waxay tahay inaad productiga magacaad u bixiso. soo meeshan waxaan ku qoraynaa marka productiga ama shaygan iibiribna magaciisa. marka aad qorto wax yar hoos soo deg qiimaha markaasi waxaad ku qoraysaa meeshan ay ku qoran tahay regular price ka qiimaha markaasi products-ka. laba waxyaabood ay leedahay oo loo kala yaqaan markaasi regular price iyo sale price labadaba waa arki doonaa farqiga u dhaxeeyo. soo marka qiimaha meeshaas kore aad ku qorto meeshan markaasi kore ayaa hal mar u baxaynaa. meeshan ay ku qoran tahay product categories waxaan abuuranayaa marka hore categories ayaan sameysanaynaa maadaama wixii noo sameysnaa iska dileednay midaan cusub oo inagu leenahay. soo categories-ka waxaan u bixinaynaa kaba soo qaad macnaha alaabta aan rabnay inaan ku iibino website-keena nooca imise nooc ay noqon kartaa. soo waxaan leenahay waxaan ku iibin doonaa harqaan. tusaale website-keena wuxuu ahaa meel lagu iibiyo spare parts tusaalaan u soo qaadanay. kadib categories kale ayaan abuuranaynaa isaguna oo loo yaqaan markaasi birar. soo hadhow product walba aan abuurno oo bir ahaan waxaan dig saaraynaa markaas ama hoos imaanaysaa categories-ka birarkan. product walba oo markaas harqaan ahna waxay hoos imaanaysaa meesha harqaanka ah. soo marka labadaas product abuurato soo hadda meeshan waxaa noo abuuran markaas ama product koobaad noo sameysan waxaa loo yaqaanaa markaas harqaan. soo waxay imaanaysaa category-ga loo yaqaan harqaan. soo isaga bas ayaan tig saaraynaa inta kale tigto aan ka qaadanaa. okay marka intaas sameyso meeshan hoos hal mar oo soo deg ay ku qoran tahay product image iyaduna waa muhiim. waxaad soo dhigaysaa markaasi shaygan aad iibinayso sawirkiisa ayaa laga rabaa inaad soo dhigto. soo product image waa furaysaa kadib waxaa leedahay upload file ayaa leedahay kadib waxaa leedahay select files ayaa leedahay. soo products sawirkeeda ayaa soo qaadanaysaa. markaad sawirka aad soo qaado waad ku dhufanaysaa meeshan ayaad ku sii dhufanaysaa ay ku qoran tahay set product image. soo markii intaas aad sameyso oo shaqadaas intaas aad qabato kaliya waxaa leedahay marka hadda publish productada ayaa markaas publish gareynaysaa. soo marka waxaan leenahay publish ayaan leenahay productii koobaad saas ayaan ku abuurnay. saan u daawano marka productkan si u eg tahay waxaan meeshan view product ay ku qoran tahay ayaan dul tagaynaa right click ayaan leenahay kadib waxaan leenahay markaas open link new tab si tab cusub markaas uu noo furmado. tab cusub ayaa noo furmanayo. soo productiga marka abuurnay sidaan ay u eg tahay category-gii wixii dhammaay sawirkii. soo marka xigta aan aragna haddana product kale qaabka loo abuuro step koobaad haddana meeshan waxaan ku qoraynaa magaca productiga. meesha waxaan arki doonaa markaan qaabka loo adeegsado markaas waxa la hayo description iyo sidoo kale regular iyo sale price kan arki doonaa. soo marka intaas aad sameyso kooda hore markii aad meeshaas ku qorto productiga namekeeda waxaad meeshan ku qoraysaa category-ga ee tahay ayaad ka dooranaysaa. soo category-ga markaan waxaan siinayaa waxaan leeyahay waa birar. okay marka intaas aad sameyso meeshan marka waxaan soo qaadaynaa haddana image-ka productiga ayaan soo qaadaynaa. waxaan leenahay set product image waxaa leenahay markaasi upload file select file kadib image ka soo dhig. markaana waxaan adeegsan doonaa markaasi waxa la hayo description. productigan waxaan rabnaa inaan faahfaahin yar ka qorno. soo meeshan ay ku qoran tahay product short description ayaa waxaan ku qoraynaa macluumaad yar oo ku saabsan productigani aan iibi rabno. kadib marka macluumaadka meesha aad ku qorto waxaan kaloo arki doonaa marka qaabka loo adeegsado waxa la hayo regular price iyo sale price. soo regular price-ka wuxuu noqonaa markaasi marka aad qiimo dhimis sameyso camal ayaa la adeegsadaa. regular price qiimihii hore waxaan leenahay wuxuu ahaa shaygan kaba soo qaad $10 ayuu ahaa laakiin hadda waxaan iibinaynaa $8. soo marka meeshan hoose waxaa ku qoraysaa 8 ama qiimaha markaas aad rabto kaba soo qaad camal. soo adiga arki doona marka aan publish dhahno. soo publish marka okay wax yar kor u bax marka view product ay dul tagaysaa waxaa leedahay right click kadibna tab cusub aad furaysaa. okay soo productii koobaad marka labaad ee aan abuurno sidaan ayay u eg tahay. meeshan waxaan ugu qoran magaca productiga inta waxaan ugu qoran qiimihii aan sameynay regular price-ka waxaan siina 10 sale price-kana waa 8.
sidoo kale inta waxaan ugu qoran short description-kii faahfaahinta yareed oo markaasi aan sameynay. soo marka sidaas ayaa iyaduna loo gudbaa. soo markii saddexaad waxaan arki doonaa qaabka loo adeegsado tags. soo product kale aan hal mar abuurno. soo markii xigta waxaan arki doonaa qaabka loo adeegsado waxa la dhahayo tags. isaguna waa arki doonaa maadaama hadda aan soo baranay categories, aan soo baranay product image description-kii magacii. markaan waxaan arki doonaa sida loo adeegsado product gallery iyo tags waxa la dhahayo. soo mar koobaad meeshaan waxaa ku qoraysaa magaca productiga, waxyar hoose usoo degaysaa category-ga tahay. markaan waa harqaan leenahay, category-ga tig saaranaynaa, qiimaha inta ku qoraynaa. soo marka maanta waxaan arki doonaa qaabka loo adeegsado product tags. product tags-kan waa muhiim, wuxuu ka caawinaa alaabtaada in laga helo qaybta markaas searching-ka ee Google-ha. oo kaba soo qaad qof haddii uu qoro markaas harqaan iib ahaan oo website-kaada adigu alaabtaas aad ku dhex iibinayso, haddii tags-ka aad meeshaas ku qorto waxaa markaasi dhacayso in laga dhex helo alaabtaada qaybta Google-ha. soo marka saantaas u sameyno, productiga magaciisa ayaa hal mar waxaan sameynaynaa highlight-aan saaraynaa, right click aan leenahay, kadib waxaan leenahay copy aan leenahay, hoosaan usoo degaynaa. markaan hoos soo degno inta waxaan saaraynaa marka product tags-kan ku dhufanaynaa, waxaan leenahay right click, kadib paste ayaan leenahay. marka aad paste dhahdo aad soo celiso waxaad dhihi kartaa comma waa dhihi kartaa, ama haddii kale meeshaan ay aad ku qoran tahay waad ku dhufan kartaa. soo boqolaal tag ayaa adeegsan kartaa, xaddi ma laha. soo tagga koobaad waa ujeedaa halkaas oo noogu qorma. haddana waxaan ku qoraynaa marka tag kale oo waxaan leenahay markaan kaba soo qaad harqaan ayaan leenahay cusub. haddana waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay add ayaan leenahay. haddana waxaan adeegsanaynaa tag kale, waxaan qoraynaa harqaan iib ah ama harqaan markaasi gacan dambe ah ama harqaan iib ah camal, si hadhow Google-ha looga helo. kadib waxaan leenahay add ayaan leenahay. okay, marka intaas aad sameyso marka waa sii wadi kartaa. soo intaasaan iskaga ekeenaa. marka xigta waxaan sameynaynaa product image horta aan saarno mar koobaad, image saxda aan ugu talagalnay. soo image koobaad waxaan leenahay product image ku dhufo, upload file select file, kadib waxaa dhahdaa markaasi image soo qaad, kadibna set product image le. okay, marka xigta waxaan arki doonaa qaabka loo adeegsado meeshaan ay ku qoran tahay product gallery image. lacala haddii aad rabto inaad dhowr image aad kusoo darto productigaani, sida 5 image ama 6 image kale oo productigaani isla asiga aan sawirro badan haddaa rabto inaad kasoo dhigto, inta ayaa laga soo geliyaa. soo meeshaan hal mar ku dhufo, kadib isla image-yadaana tusaale usoo qaadanaynaa. tusaale halkan image aan soo qaatay, waxaan leeyahay add to gallery aan leeyahay, gallery-ga ku darsama. haddana isla bottom-ka hoose aan ku dhufanaa, add to gallery ayaan leeyahay, haddana bottom-ka hoose add to gallery. soo sidaas ayaad ku wadi kartaa ilaa ay dhowr publish. soo marka intaas sameyso saan product u save gareyna ama u publish gareyna, waxaan leenahay publish. kadibna waxaan leenahay view product ayaan dul tagaynaa, right click ayaan leenahay, kadibna waxaan leenahay open link new tab. soo productiga marka saa ujeeda waatana image-yadii dhowrka xaba aha, mid walba ku dhufan kartaa, halkaas ka arkaysaa. soo marka sidaasaa products loo abuuraa. soo aan u gudubno marka step-ka xiga. soo step-ka shanaad waxaa ku arkaynaa marka qaabka loo dhiso page home-ka. page home-ka wax kale maaha, markaas waa page-ka noogu horeeya ama page koobaad ee website-keena. soo haddaba si aan u dhisno marka page-ka, waxaad ku dhufataa calaamadan ay ku qoran tahay visit site ama dashboard-ka ku dhufo. soo marka ku dhufato wuxuuna dhex keenaa markaas home-ka. soo hadda waxaa ujeedaa waxaan dhex taaganahay page-ka home-ka. soo marka saan u bilowna dhisida website-keena, waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay edit with Elementor. Elementor waa page builder-ka markaas aan soo qaadano oo naga caawin doono inaan markaas website-keena aan dhisno. okay, marka ku dhufato wuxuu ujeedaa marka inuu sectionadan aan edit gareyn karno mas hagaajin karno. marka koobaad waxaan arkaynaa qaabka section-kan koobaad loo dhiso. saan u dhisna marka waxaan ku dhufanaynaa marka hore calaamadani 6 dhibcood ahaan. saan sawirka gadaal u bedelna waxaan kusii dhufanaynaa haddana meesha ay ku qoran tahay style. soo style markaan ku dhufana waxaa ujeedaa sawirkan marka inuu xaggaas saaran yahay. soo hadda waxaa ujeedaa inuu yar qarsoon yahay, laakiin waa uu yaala. hal mar haddaa inta ku dhufto fiiri waa uu soo baxa. marka see sawirkan u bedelaynaa marka. soo sawirkan saa u bedelno asiga dhexdiisa waxaan sameynaynaa 2 jeer aan ku dhufanaynaa, ama delete soo ku dhufan kartaa. soo marka 2 jeer ku dhufato waxaa leedahay upload file.
kadib waxaa leedahay select files ka dhahdo waxaad soo qaadanaysaa marka sawirkii aad ugu talagashay soo aniga hadda kaba soo qaad sawirkaana ugu talagalay soo markaan sawirka soo qaado waxaa sameynaa sawirka ku dhufo kadib open markaa dhahdo haddana waxaa dhahdaa markaasi soo open markaa dhahdo waxaa dhahdaa haddana insert media soo marka aad sawirka ku soo darto waxaan arkaynaa marka qaabka sawirkaani loo hagaajinayo soo sawirkan saa u hagaajino u yareyno aan ula sinna waxaan ku dhufanaynaa meeshaan ay ku qoran tahay position horteeda furayna custom ayaan ka dooranaynaa soo inta waxaan ka hagaajin karnaa positionka x y haddii marka waxaa ujeedaa weli inuu markaas cabirka ama markaas sawirkan cabirkiisa inuu weyn yahay soo marka saan u yareyna size-kiisa waxaan sameynaynaa wax yar hoosaan usoo degaynaa marka aad hoos usoo degto waxaad ka doorataa meeshaan size horteeda ay ku qorantaha waxaad ka doorataa custom soo custom marka aad ka doorato meeshaan sawirka waa ka yareyn kartaa ama balaca haddii kale sidoo kale positionkan x iyo y gan waxaan sameynaynaa waa ku aadinaynaa tusaale ahaan soo waxaa sameynaynaa x tan wax yar xaggaan u wadaynaa midig sidoo kale hal mar hadda calaamadan aan soo xirno waxaa ujeedaa inuu saas u egyahay okay soo maxaa sameynaysaa marka x y da marka waa adeegsan kartaa positionka oo dhinaca markaasi midig iyo bidix kor iyo hoos inaad ka yareyso sawirkaada haddii aad rabto inaad cabirkiisa aa yareysana waxaa adeegsanaysaa size-kaas adeegsanaysaa soo marka intaas aad sameyso waxaa marka xigtaan aragna qaabka loo bedela qoraalkan tagastigan soo tagastigan saa u bedelna waxaad sameysaa qalin kale ku dhufo inta marka bidixdaada qoraalka waa ka bedeli kartaa soo kaba soo qaad qoraalkan ayaan ku qoraa hell spare parties okay soo inta waxaa ku qoray hadal yar markaas oo markaas macnaha wanaagsan oo oraha aan maadaama website e-commerce uu yahay haddana page-kani waa meesha u horeysa wax dadka arkayaan soo waxa aad iibinaysa camal inta ku qoraysa anigoo hadda baxaan anaan iibinaa tusaale ayaan usoo qaatay website nuucan camal ayaan markaas yar u dhisayay soo isagan tusaale usoo qaatay marka sidoo kale marka xigta markaas waxaan arkaynaa sida qoraalkan yar loo bedelo isaguna waxaa sameynaya ku dhufo kadibna tagastiga halkaas kasii bedel soo markaa qoraalka bedesho marka xigta waxaan arkaynaa qaabka loo bedelo fartaani typographiga soo saa u bedesho qoraal ku dhufo style tag kadib typography meesha marka weightka ama culeyska waa ka bedeli kartaa waxaan leenahay kaba soo qato 700 ama haddii kale waxaa siinaynaa at least kaba soo qaad tiro kale family horteeda waa fura iyadan waxaa ka bedeli kartaa fontiga markaas farta nooca ay tahay soo fartaana hadda aan iska doortay soo saasay u bedelmaysaa marka haddii aad rabto inaad sidaada hore aad kusoo celiso farta waxaa dhigi kartaa control z ama haddii kale waxaad furaysaa meeshaan ay ku qoran tahay history aad ku dhufan kartaa history marka waa kana haddaan kor hal mar ku dhufto waxaa arkay saasoo marka hore ahaa waa ka bedela saasaan u bedelay soo history wixii aad sameynaysa camal ay ku tusinaysaa iyaduna wax kale maaha marka intaas sameyso aan aragna marka xigta qaabka loo bedela markaasi bottomkan soo bottomkan saa u bedelna waxaa sameysaa markaas isagoo ku dhufo okay marka aad ku dhufato meeshaan bidixda marka ayaan ka bedelaynaa soo tagastiga halkaas aad ka bedeli kartaa anigu markaa tagastiga farahan ka qaada qoraalka waxaan rabaa inaan markaan link kusoo daro meeshaan marka ay ku qoran tahay link hoosteedan ku dhufana waxaan ku qoraa marka qofka bottomka markuu ku dhufto waxaan rabaa inuu page kale dhex geeyo waxaan ku qoraa store oo hadhow markuu qofka bottomkaas ku dhufto store page kale dhaha ayuu dhex keenaa halkaas oo markaas alaabtii aan hayno dhanka arkaa marka xigta waxaan rabnaa bottomka inaan kusoo darno waxa laha icon oo sileed ahaan markaas aan kusoo darno sida qofka wax inuu iibsanayo soo waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay icon library markaan ku dhufano meeshaan kore waxaan iskaga qoraynaa shop oo waxaan rabnaa calaamadii bahashii sileed ahayd inay noo soo baxdo soo ama shopping aan leedahay hadhow lacala haddii aa weyso soo marka calaamadaas soo qaadanaynaa kadib waxaan leenahay insert okay marka calaamadda waxaan dhigaynaa dhinaca midig waxaan leenahay after aan leenahay qoraalka gadaashiisaan dhigaynaa kadib okay waxyar marka hoos soo deg haddana waxaan arkaynaa qaabka loo bedelo qoraalkan soo tagastiga koobaad aan bedelaynaa column koobaad waxaan sameynaya qalin kale ku dhufo marka hore waxaan bedelaynaa calaamada iconka waxaan sameynaya isaga le ku dhex dhufo iconka soo iconka markaa ku dhufato meeshaan mid le ka dooro soo aniga kaba soo qaad hadda iconkan iska dooranaa kadib insert dheh sidoo kale qoraalkan haddii aad rabto inaad bedesho isaguna maxaad sameynaysaa qoraalka ku dhufo kadib markaas ciwaanka waxaa rabtaa halkaas ku qoray sidoo kale qaybta faahfaahinta iyaduna waa bedeli kartaa soo waxaan iskaga qoraa kaba soo qaad waxaan leeyahay hel alaab cusub oo qiimo jaban oo ku qanciso
oo tayo leh. Okay, so free shipping and money bag aan farahan iskaga qaadaa. So kuwan kale free shipping iyo money bag kuwan farahan iskaga qaadaa maadaama ay habaysan yihiin. Iyaguna hadaa rabto inaad bedesho sidaas loo bedeli kartaa. So marka xigta aragna sectionka ku xiganagay hadana sectionka saddexaad. So sectionka saddexaad waxaan sameynaynaa waa iska xireynaa waxaan leenahay waa dul tagaynaa close aan leenahay. Okay, waxay hoos soo soco sidoo kale sectionka waxaan sameynaynaa isaguna markaas waa dul imaanaynaa. Waa iska dileedeynaa meeshaan hadhow waa arkaynaa sida product loo soo dhigto. Marka xigta waxaan sameynaynaa waxay hoos deg. Okay, marka xigta sectionkan kale isaguna waa iska xireynaa waxaan leenahay close. Kana sidoo kale waxaan leenahay isaguna close. Okay, marka xigta waxaan sameynaynaa column-kan waa copy-yeysanaynaa halahan yar oo u baahanahay. So waxaan leenahay right click kadib waxaan leenahay copy. Asigoo dhan waa iska xireynaa marka. Waxaan ku dhufanaynaa calaamadan plus-ka ahan 3 column baan ka dooranaynaa. Kadib mid kamid ah dul tagaynaa waxaan leenahay right click kadib waxaan leenahay paste. Column-yada marka mid kamid ah delete soo kanaan dul tagaynaa right click kadib waxaan leenahay delete. Soo kan marka dhinacan bidixda u skinaynaa wax yar. Okay, kan midiga u skinaynaa boom. Soo marka hadda sidooda ku dhaafaysa tagastiga marka aad bedelan halaha saran u baahanayn anagu tagastiga aan bedeleynaa. Ciwaanka marka koobaad aan bedelan qalinkaas la ku dhufo. So halkan waxaan iska qoraynaa hadal yar markaasay. Okay, marka xigta description-ka ma bedeleynaa asaguna ku dhufo hal mar kadib dhinacaas bidixda ka bedeleysaa. So marka sida u bedesho hadana waxaan bedeleynaa bottom-ka. So bottom-ka saa u bedelno dhufo kadib dhinacan bidixda linki ku dhig. So waxaan ku qoraynaa meeshaas store aan ku qoraynaa. So store marka ku qorto kadib waxaan arkaynaa marka qaabka loo bedelo sida bottom-kan loogu soo daro markaas icon. So waxaan ku dhufanaynaa meeshaan ay ku qoranta icon library. Kadib meeshaas kore waxaan ku qoraynaa shop kadib waxaan leenahay insert. So kadib waxaan siinaynaa hadana after. Okay, tagastiga marka xogaa waan nuurinaynaa saa u hagaajina qalinka ku dhufo kadib waxaad tagtaa style. So style markaad tagto typography fur weight-ka waxaan ka dhigaynaa 500 camal. Okay, sidoo kale farta waa yar weyneynayna haddaan rabno. Okay, cabirka size-ka halkaas aan ku dhaafaynaa wax yaraan ku daraynaa at least. So marka intaas aad qabato kan waxaan ka dhigaynaa capital xogaa waa weyneynayna. Okay, marka intaas qabato shaqadaada waxaa dhahdaa update. Marka xigta waxaan arkaynaa qaabka product-iga aan soo abuurnay aan inta soo dhigan lahayn ilaa waxaan rabnaa qofka marka website-keena soo booqdo in alaabta inta ka soo muuqato. So waxaan ku dhufanaynaa hal mar meesha geeska aan kadib meeshaas waxaan ku qoraynaa waxaan raadinaynaa widget la dhahayo products. So products fiir markaan soo qaadmaadna waa uu naga diidayaa oo wuxuuna leeyahay markaasi waa inaga xiran tahay. Wuxuu u baahan yahay markaasi inaan heesana waxaan naga rabaa plugin loo yaqaan Elementor Pro. Elementor Pro marka seeban ku heleena waa su'aasha. So Elementor Pro waxaan u baahnaa inaan plugin la soo degno. So plugin-ka aniga si free ah ku siinaa step-yada aan ku sheegi doono raaco la soo deg. Kadib marka la soo degto waxaan ku tusaa marka qaabka loo soo upload gareeyo. Saan hore u sheegay plugin-kan waa lacag markaas lagu magacaabo Elementor Pro. Haddii aad rabto marka premium version-ka ahan oo hadda aan ku tusaa sida aad ku helay si free ahan wuxuu ka rabaa markaas inaad gadato qiyaastii bishii waxaa la gaday ku dhawaad 40. So marka aniga ayaa iibsaday marka si free ayaan kugu siinaa. Elementor Pro marka wuxuu ka caawinaa midkan kale free ku dhaama wuxuu ku siinaa markaas midkan free-ga waxyaabo badan oo ku ogolaanaynin. So marka saad plugin-ka ula soo degto step-yadan raac marka hore waxaad furaysaa tab cusub kadibna waxaad tagaysaa webdisa.com/Pro ayaa leedahay. So marka aad ku dhufato inta ayuu ku keenaa. So saa u jeeda meeshaan Elementor Pro marka waa akhrisan kartaa waxyaabahan haddii aad u baahan tahay. So meeshaan ayaan kala soo degaynaa. So saad ula soo degto marka kaliya waxaa ku dhuftaa meeshaan ay ku qoran tahay download here. So marka download here ku dhufto waxaa u jeedaa plugin-ka markaas inuu qaybta hoose noogu dagayo. So markii aad la soo degto markaas ku dhamaado MB-giisa waa 2.7 iska yar tahay. So marka waxaan arkaynaa qaabka website-kaada loogu soo import gareeyo plugin-kan ama loo soo upload gareeyo. So marka plugin-ka la soo degto waxaan ku dhufataa marka calaamadaas geeska ah tag.
kadib waxaa dhahdaa exit to dashboard. waxaan ugu bixinaa marka qaybta dashboardka aadeyna. waa qaab fudud markaas oo gadaal ku booqan karto. kadib dashboardka marka aad waxaa ku dhufanaysaa calaamadaasi. soo intaan rabnaa marka inta ayuuna keenaa. soo waxaan tagaynaa meesha la dhahayo plugins. kadib waxaa leenahay add new. soo add new markaa dhahdo waxaa ku dhuftaa meeshan ay ku qoran tahay upload plugin aa ku dhufanaysaa. kadib waxaa leedahay markaasi pluginkaana soo upload garaynaynaa Elementor Pro waa kana. markaas soo dejisto sidan ayuu kugu soo baxaa. soo marka pluginka la soo degto waxaa dhahdaa install now. soo install now markaa dhahdo kadib waxaa dhahdaa activate plugin. soo markaa active garaysa pluginka waxaan arkaynaa qaabka pluginkan loo isticmaalo. soo saa u isticmaalno waxaa booqanay marka koowaad website-kaada. markaa booqato waxaa ku dhufanaysaa meeshan ay ku qoran tahay edit with Elementor. soo edit with Elementor markaa ku dhufato hadda marka waxaan imaanaynaa hoos aan usoo degaynaa. intaan marka meeshaan waxaan rabnaa inaan alaabtii aan soo dhigana productski. soo meesha kore waxaan ku qoraynaa marka oo bidixda ahan products. soo hadda saa ujeeda way noo shaqeynaysaa, way noo furmatay. soo waxaan sameynaynaa productska aan soo qaadaynaa marka intaan kusoo jiidaynaa. soo wax yaraan sugaynaa markaasi. soo saa ujeeda productski aan abuurano waatana marka good. soo productiga marka hoosta iskaga jirtaan waxaan ka dhigaynaa 3 column. meeshaan bidixda hal mar waxaa ka dhiga 4 ahna waxaa ku qoraysaa at least adiga 3 ku qore. okay soo 3 column rowga marka hadhow way badnaan kartaa productiga qaar qarsooma. marka waxaan iska leenahay 10 row aan siinaynaa si at least halkii row waxaa yaala 3 product. soo 30 product camal si ugu soo muuqato homepage-ka waxaan siinaynaa 10 row. hal mar haddii aan iska xirnaa calaamadan waxaa ujeedaa. soo waxaan yareynaa hal mar shaashada control -90. okay soo hadda marka productski waatana aan markaasi abuuranay. soo productski marka saa ujeedo tagastigaana bedelaynaa marka qoraalka ahan. meeshaan futured balance ku qoran laakiin productska laga rabaa dhawaan bedeli doonaa. meeshaan tagastigaana ku dhufanaynaa marka hal mar. okay meeshaan waxaan ku qoraynaa markaba soo qaad qoraal yar. soo meeshaan oo leeyahay future balanceska waa arki doonaa hadhowaan bedeli doonaa. waxaa laga rabaa future products. marka xigta meeshaan kore ku dhufanayna hal mar waxaa ujeedaa qaybtaan inay xagga kasoo sokaysa cabaar ay ka dheer tahay. saan ugu dhaweyna waxaan ku dhufanaynaa calaamadaas 6 dhibcood. kadib waxaan tagaynaa advanced. marka advanced tagto meeshaan ay ku qoran tahay top waxaan ka dhigaynaa waxaan siinaynaa -30 aan siinaynaa. wili ka dheer tahay soo minus waxaan siinaynaa 90. okay hadda waxaa aqrisooma soo marka 30 iska dhaafayna -30 aan leenahay. okay soo marka intaas aad ku dhaafto marka xigtaan aragna qaabka mobile ahaan ugu muuqana website-keena. soo waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay responsive mode. kadib meeshaas waxaan kasii dooranaynaa mobile version ahaan. okay dadka mobileka haysta marka website-keena sidaan buu ugu muuqan doonaa. soo sawirkaana naga qarsan xoogaa yar. waxaan sameynaynaa calaamadaasaan ku dhufanaynaa 6 dhibcood. waxaan tagaynaa style. soo sawirka marka hore waxaan rabnaa inaan soo muuqino. waxaan sameynaynaa isagaa 2 jeer ku dhex dhufanaynaa. soo sawirka markaan ku dhufano 2 jeer dhexdiisa sawirkii hadayaan soo qaadanaynaa. marka sawirka hadaya ku dhufo kadib insert mail dheh. okay hadda waa noo soo fuulo marka sawirka. waxaan sameynaynaa hal mar hadda meeshaan positionka aan yareeyo. waa kaas sawirka waa ujeedaa laakiin waxaa yar sawirka waa u weyn yahay. marka koobaad waxaan sameynaynaa sidii hadaya camal cabirka sawirkaan yareynaynaa. soo saan u yareyno wax hoos u deg. kadib meeshaan width ay ku qoran tahay size-ka waa yareynaynaa. sidoo kale haddana kor u baxaynaa meeshaan expositionka iyo positionka adeegsanaynaa oo ku aadinaynaa. okay soo marka hadda waxaa ujeedaa inuu xoogaa la ekaaday. marka xigta qoraalkan waxaan rabnaa marka inaan kor saaran sawirka inaan hoos dhigno aan ka dejino. soo waxaan sameynaynaa waxaan ku dhufanaynaa hal mar column-kan ayaan ku dhufanaynaa. column-ka markaa ku dhufana waxaan tagaynaa advanced meesha ku qoran tahay. soo advanced marka aad tagto meesha topka waxaa ku qoraysaa 20. soo wili uma dhow yahay oo kor saaran yahay 100 wili maya 200 300. okay 350 aan leenahay markaane. soo hal mar haddaan hoos soo degno
website-keena sidaan buu noogu muuqdaa. Okay, waa uu wanaagsan yahay. Markii xigta aan aragna qaabka tablet ahaan uu shaqeynayo, soo tablet ku dhufo isagana waxaa ujeedaa sawirka inuu ka weyn yahay. Soo sawirka saan ula ekaysiino waxaan ku dhufanaynaa calaamadaas dhibcaha, waxaan tagaynaa style. marka koowaad waxaan sameynaynaa sawirka custom aan leenahay meeshaan. sawirka u yaala laakiin waa la ekaysiinaynaa. hoosaan wax yar u degaynaa meeshaan size-ka markaasi balacaan yareynaynaa wirtiga waxaan ka dhigaynaa at least waa yareynaynaa. soo hadda marka waxaan adeegsanaynaa calaamadan x to dhinaca midigtan u sakinaynaa wax yar kadib y. soo y-da waa wixii kor iyo hoos ah, x-na waa wixii markaasi bidix iyo midig ahaan. soo marka isagana ku aadiso wixii aad mobile ka bedesho mobile bes ay ka bedelmayaan, wixii laptop aad ka bedesho laptop bes ay ka bedelmayaan. soo shaqada isma laha. soo hal mar haddaan xiro soo waxaa ujeedaa inuu laptop ahaan sidaan noogu muuqdo, tablet ahaan sidaan inuu noogu muuqdo, mobile ahaan inuu sidaan noogu muuqdo. shaqadaada markasta u save garaysato waxa aad soo qabato waxaa leedahay update, kadibna waxaa ku dhufanaysaa markaasi qalinkaasi saa u daawato. soo marka saan u ogyahay wixii markaasi aan ka bedelno website-keena saanan u qurxinay. soo markaan u gudubno step-ka xiga. soo step-ka lixaad waxaan arkaynaa marka qaabka loo dhiso page-ka markaasi store-ka. soo hore waxaan usoo aragnay markaas sida loo dhiso home page-ka, nagasta waxaan arkaynaa sida loo dhiso page-ka markaas lagu magacaabo store-ka. soo markaas aan u bilaawno shaqada markaas ama dhisida page-ka. marka hore waxaan u baahnaa inaan abuurno waxa la lahayo categories. categoriesku macnaha waa hore usoo sameysana. marka waxaan soo dhigaynaa qaybka markaas page-ka store-ka hoostiisa oo qofku markuu ku dhufto waxaan rabnaa markaas inta product oo baqarkeena taala ama oo markaas ama intaan ku dhex iibinayno inay u soo baxdo. soo hore waxaan usoo sameynaa laba category oo lagu kala magacaabo harqaan iyo birar. soo marka inta ayaan soo dhiganaynaa. marka koobaad saan usoo dhigana waxaan tagaynaa qaybta backend-ga ee website-keena. soo marka qaybta backend-ga website-ka aad tagto waxaad tagaysaa meeshaan ay ku qoran tahay appearance, kadibna waxaad ka dooranaysaa markaasi meeshaan menu ayaa kasii dooranaysaa. soo marka menu aad doorato hadda menu kale ayaa noo dooran. marka saan usoo dooranay midka saxda ah markaasi waxaan sameynaynaa meeshaan kore ee markaasi ay ku qoran tahay menu, select a menu to edit oo ku leeyahay menu-gu markaas aad rabto inaad edit garayso ama hagaajiso dooro. waxaan ka furaynaa marka inta waxaan ka dooranaynaa inta waxaan ka dooranaynaa main menu and primary menu oo ahaan midka weyn. soo markaad doorato waxaad kusii dhufataa select. okay, saa ujeed inta ayuu noogu soo muuqdaa. soo marka meeshaan waxaa noo yaala shantii page markaas caadiga ah page-kii markaas noo sameysnaa. soo marka waxaan arkaynaa qaabka markaasi page-kan store-ka hoostiisa loo soo dhigay categories. soo categorieska marka noo sameysnaa ayaa marka waxaan sameynaynaa linkiyadooda ayaan soo qaadanaynaa. waxaa ku dhufanaynaa meeshaan ay ku qoran tahay products, kadib waxaan kasii dooranaynaa categories ayaan kasii dooranaynaa. soo saa ujeeda meeshaan laba category ayaa noo sameysan. soo labadan category marka waxaan sameynaynaa waxaan dul tagaynaa marka midkan birar waxaan view meesha ay ku qoran tahay dul tagaynaa. waxaan leenahay right click, kadib waxaan leenahay open link in a new tab. kan kale ayaa dul tagaynaa waxaan leenahay right click open link in a new tab. soo markii aad labadooda intaas sameyso waxaa imaanaysaa meeshaan ay ku qoran tahay markaasi menu ayaan imaanaynaa mar kale. markaa imaana waxaan ku dhufanaynaa meeshaan ay ku qoran tahay custom links ayaan ku dhufanaynaa. soo custom links markaan ku dhufano meeshaan kore ee URL ku qoran tahay waxaan sameynaynaa linkigan koobaad ee markaas waxaan sameynaynaa birarka ayaan koobiyeynaynaa. waxaa leenahay waa dul tagaynaa okay page-ka qoraalkan oo dhan mar koobiyeynaynaa. markaan koobiyeyno inta imaanaynaa markaasi. soo inta markaa imaano meeshaan URL-ka ay ku qoran tahay markaas waxaan sameynaynaa waa dul tagaynaa. waxaan leenahay markaas right click, kadibna waxaan leenahay paste qoraalkii soo celinaynaa. sidoo kale taga linkigan aan siinayna waxaa loo yaqaanaa birar. waxaan leenahay art menu. saa ujeeda hoos ayuu kusoo muuqda birar. marka kor ayaan u qaadaynaa waxaan hoos dhigaynaa marka page-ka store-ka hoostiisa aan dhigaynaa. okay, wax yaraan dhinaca midig u skinaynaa oo waxaan ka dhigaynaa sub item. marka xigta waxaan tagaynaa harqaan, qoraalkaana hal mar wada koobiyeynaynaa. waxaan leenahay right click, kadib waxaan leenahay copy. inta imaanaynaa
meeshan URL-ka waxaan leenahay right click kadib paste kadib marka category-gan waxaan siinaynaa markaas harqaan hadhow markaan harqaan ku dhufano wixii markaas harqaan ah markaas category-gan hoos imaado dhan xaggaasaan ka arkaynaa oo product ah kadib waxaan leenahay marka add menu okay marka waxaa ujeedaa inuu inta kasoo muuqdo marka kor u qaad wax yar kadib dhinacaan u siki midig soo marka intaas aa samayso waxaa dhahdaa marka save menu saa u save garayso soo marka wixii aan samaysana saa u aragna waxaan ku dhufanaynaa meeshan ay ku qoran tahay website-kan aan booqanaynaa soo saa ujeeda marka markii aan hadda dul tago store waxaa ujeedaa marka meeshaani laba menu inuu siinayo oo ah birar iyo harqaan oo qofka dhow asna markii inuu labadaas category u siinayo soo markii xigta waxaan arkaynaa qaabka page-kan loo dhiso soo page-kan saa u dhisna waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay edit with elementor soo edit with elementor markaa ku dhufato saanu noogu soo baxaa marka sawirkan ayaa hal mar soo bixinaynaa soo saan u soo bixino waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay edit section ayaan ku dhufanaynaa calaamadan 6 dhibcood kadib waxaa dul tagaynaa style kadib meesha marka sawirka waa kaas saa u jeeda hal mar haddii meeshan aan furo soo muuqana okay marka sawirkan saa u bedelno waxaa samaysaa isaga laba jeer ku dhufo kadib waxaa dhahdaa markaas upload files kadib waxaa dhahdaa select files soo select file marka dhahdaa sawirka ugu tala gashay inta soo dhig soo kaba soo qaad sawirkaana soo qaadanaynaa soo sawirka laba jeer ku dhufo markaa ku dhufato haddana waxaa kusii dhufataa meeshan ay ku qoran tahay insert media soo marka xigta marka sawirka inta ayuu noogu soo muuqday marka waxaan sameynaynaa sawirkan xoogaa looma jeedo wax yar waxaan sameynaynaa hoos ayaan usoo degaynaa meeshan ay ku qoran tahay background overlay ayaan furaynaa soo marka meeshaani waxaa ujeedaa locationka iyo waxyaabahan ayaan yaraynaynaa iftiinka waxaa rabnaa sawirka inuu soo muuqdo soo intaa wax yar u sikinaynaa si markaas iftiinkiisa saaid loogu arko okay ama haddii kale meeshan secondary color aan furaynaa waxaan ka dhigaynaa marka xoogaa mid markaas original ahaan dhinacana u wadeynaa background hadda waxaa ujeedaa madow inuu dul saaran yahay okay soo intaasaan iskaga dhaafaynaa marka xigta waxaan sameynaynaa marka meeshan future products balance ee qoranta waa iska xiraynaa close aan leenahay uma baahnin okay marka xigta meeshaani ayadana textigan waa bedelaynaa qalinka ku dhufo kadib dhinaca bidix ka bedel la usoo aragna si loo adeegsado soo marka qoraalka aad bedesho marka waxaa samaysaa productgiisa ujeedo okay hoos u deg kadibna waxaa samaysaa meeshaan iska xir close dheh okay marka waxaan fiirinaynaa qaabka marka mobile ahaan uu muuqanayo waxaan ku dhufanaynaa meeshaasi hoose ay ku qoran tahay responsive mode kadib meeshaan waxaan ka dooranaynaa mobile soo mobileka sidaan ugu muuqanaa sawirka waxaan rabnaa marka inaan wax yar hoos soo dhigno waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay edit section kadib waxaan tagaynaa advanced meeshaan waxaan leenahay al link oo kala fujinaynaa kadib topka meesha marka waxaan dhigaynaa at least kaba soo qaad adiga 30 wili 300 ama 100 okay 70 soo marka waxaa ujeedaa sawirkan inuu weyn yahay soo sawirkan yareynaynaa sawirka marka saan u yareyno mar koowaad waxaan tagaynaa meeshaan ay ku qoran tahay style kadib meeshaan hoos ayaan usoo degaynaa marka soo size oo horaan usoo baranay soo size-ka marka meesha wirtiga ahaan waa yareynaynaa balaca at least waxaan ka dhigaynaa sidaa soo marka wax yar waxaan sameynaynaa hoos koran u bixinaa waxaan tagaynaa advanced meeshaan marka topka aan waxaan sameynaynaa hal mar ziiraan dheena oo si farahan iskaga qaadaynaa hadda waxaan siinaynaa marka at least kaba soo qaad 20 okay marka xigta waxaan fiirinaynaa qaabka tablet ahaan uu shaqeynayo soo inta ku dhufo soo waxaa ujeedaa marka tabletka sidan inuu yahay soo hal mar waxaan sameynaynaa meeshan size ka horteeda waxaan ka dhigaynaa custom lacayntaana la keenaynaa kadib meeshan positionka idan horteeda waa furaynaa waxaan ka dooranaynaa custom kadib marka extana waxaan sameynaynaa wax yar xaga u wadeynaa kadib widen wax yar waxaan sameynaynaa koran u yar wadeynaa okay extra wax yar ku daraynaa so good soo marka hadda si wanaagsan ayuu markaasi okay si wanaagsan oo hadda markaasi no okay sameynayna hal mar positionka oo furaynaa waxaan ka dhigaynaa custom kadib marka cabirka waxaan sameynaynaa xaggan u skinaynaa oo midig
soo shala waan soo sheegay x waa bidix iyo midig, y-dana waa kor iyo hoos. soo sawirka saasoo noogu muuqdaa tablet ahaan mobile laptop ahaan aan dhehe, sidoo kale tablet sidaas ayuu noogu muuqdaa, sidoo kale mobilena sidaas ayuu noogu muuqdaa. soo mobileka marka xiraan bedeleynaa, meeshaan waxaan ka dhigaynaa size-ka ahaan cover, ama haddii kale waxaan leenahay auto. okay hadda marka waxaan sameynaynaa positionka, marka waa hagaajinaynaa, waxaan leenahay custom aan ka dooranaynaa. okay hadda marka noo fiicnaado waxaan sameynaynaa intaa wax yar u skinaynaa kan dhinaca midig. okay soo hadda marka wax yar hoos skinaynaa. okay si perfect marka hadda noogu soo baxay. soo marka tabletkan saasoo noogu muuqdaa hadda, markaasi desktopkana sidaas baa noogu muuqdaa. soo shaqadaasa u save garaysato waxaad ku dhuftaa markaasi meeshan ay ku qoran tahay update, kadibna marka saa u daawato wixii aad bedesho marka waxaa ku dhuftaa meeshaan qalinka ahaan oo isha ahaan ku dhufo. soo marka waxaa ujeedaa marka taab cusub inuu nageeyo sidaa noogu soo baxay waxyaabihii aan websitekeena ka bedelnay. soo markaan u gudubno stepka xiga. soo stepka 7 waxaan ku arki doonaa markaasi qaabka loo hagaajiyo page-ka markaasi about us-ka. soo saan u hagaajino waxaan sameynaynaa marka hore waxaan dhex tagaynaa page-ka about us-ka ayaan ku dhufanaynaa. soo marka aad page ku dhufato waxaad kusii dhufataa markaasi edit with Elementor, oo markaasi page-ka waxaan rabnaa markaasi inaan hagaajino si lamid ah isaguna. soo edit with Elementor marka aad ku dhufato sidan ayuu kugu soo baxaa. marka saan u hagaajino page-ka marka hore sectionkan koobaad saxa ujeedaa sawirka inuu qarsoon yahay. soo sawirkan saan u soo bixino waxaan ku dhufanaynaa meeshaani ay ku qoran tahay edit section ama 6 dhibcood. kadib inta ayaa furaynaa position, waxaan meeshaan marka ka dooranaynaa soo centrance ka dooranaysa ujeeda marka hadda sawirka uu soo muuqday. marka sawirkan si u bedeleynaa. soo sawirkan saa u bedelno isaga laba jeer ku dhufo. waxaan sameynaynaa sawirka hadaaleen iska soo qaadanaynaa markaasi oo sawir cusub u baahnin. sawirka hadaa ayaan dooranaynaa, kadib waxaan leenahay markaasi insert media. okay sawirka waan soo gelinaa. soo marka sawirkaani waxaan furaynaa meeshan position horteeda, waxaan ka dooranaynaa markaasi custom. soo custom markaan ka dooranay inta waxaan ka hagaajinaynaa positionka x y oo ah markaasi bidix iyo midig, sidoo kale y-da waa kor iyo hoos iyaduna. okay saasaan ula ekeysiinaynaa marka. soo section ku xiga ayaan tagaynaa, waxaan sameynaynaa kuwan waa iska xiraynaa, close ayaan leenahay. okay sidoo kale kuwan waa iska xiraynaa, waxaan leenahay iyaguna close ayaan leenahay markaasi. soo marka intaan ayaa noo soo hartay, labadan section oo kale noo soo hartay. soo meeshaan qoraalkan waa bedeleynaa. saan u bedelna marka waxaa sameysaa qalin ku dhufo, kadib dhinaca markaasi bidixda ayaa ka bedeli kartaa. soo waxaan iskaga qoraynaa kaba soo qaad learn more about us. soo markii aad qorto waxaa ujeedaa inuu qoraalka yaryahay. meeshaan html tag horteedan furaynaa, waxaan ka dhigaynaa h1, waa weyninaynaa. soo wax yar intaa u sakinaynaa kan dhinaca midigta. okay marka xigta waxaan arkaynaa marka qaabka loo bedelo bottomkan. soo bottomkan saa u bedesho isaga ku dhufo. marka koobaad meesha alignmentiga waxaan ku dhufanaynaa dhexda ayaan keenaynaa centerka. marka xigta waxaan arkaynaa qoraalkan aan yareyna wax yar. soo qalinka ku dhufo, kadib waxaa tagtaa markaasi typography meesha ku qoran tag. soo meeshan size-ka ayaan ka yareynaynaa cabirka. soo cabirka inta ayaan ka yareynaynaa marka at least intaan ka dhigaynaa. okay waxaan tagaynaa content meeshaan marka alignment uu leeyahay waxaan saleenaa dhexda ayaan soo dhigaynaa xoogaa si loo arko, ama haddii kale leftiga iska dhaafi kartaa. soo dhexdaan dhigaynaa markaasi. okay soo marka xigto marka aad farta inta aad dhexda aad keento waxaan ku dhufanaynaa bottomka hal mar. marka aad ku dhufato meeshaan ay ku qoran tahay markaas read more waa bedeleynaa qoraalka oo waxaan ku qoraynaa kaba soo qaad contact us, qofka macnaha haddii uu rabo inuu anaga nala soo xiriiro camal. soo marka linkiga waxaan ku xiraynaa page contactiga, waa arki doonaa step ku xiga si loo hagaajiyo page-kaasi. soo waxaan leenahay meeshaas contact ayaan ku qoraynaa us ama contact. okay soo page-ka wakaas isaga ayaa soo booda. marka waxaad sameysaa page-kaas lee ku dhufo oo noo sameysan yahay. marka xigta waxaan kusoo daraynaa marka icon. soo waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay icon library. okay marka ku dhufato meesha kore waxaan ku qoraynaa marka icon markaas aan kaba soo qaad contact ama phone ayaan ku qoraynaa.
telefoon ahaan soo kanaan soo qaadanaynaa kadib waxaan leenahay insert. soo marka waxaa ujeedaa haddii aad rabto meesha icon positionka waxaa dhihi kartaa after waa dhihi kartaa, laakiin se ila taa before oo ku qurxan yahay isaga halkaasaan ku dhaafeynaa before. okay tagastigaas kaloo yar waa bedeli kartaa marka sidoo kale qalinkan haddii aan ku dhufto qoraalkan dheer ujeedid waa bedeli kartaa, laakiin anaga hadda ma bedeleyno time aad u badan uma hayno. soo marka xigta waxaan tagaynaa style. haddii aad rabto qoraalka inaad hagaajiso meeshan sizekiisa waa ka weyneyn kartaa. sidoo kale meeshan weightka ahaan markaasina horteeda waa furi kartaa, iyaduna waxaa ka dhigi kartaa at least 500 waa siin kartaa. marka xigta aan aragno qaabkeedkan qaabka mobile ahaan ugu muuqanayo. soo waxaan ku dhufanaynaa responsive mode kadib waxaan tagaynaa mobile ayaan kasii dooranaynaa. soo mobile sidaan uu muuqdaa. marka waxaan sameynaynaa edit section ayaan hal mar ku dhufanaynaa kadib meeshan positionka horteeda waa furaynaa, waxaan ka dooranaynaa custom. okay marka meeshan waxaan sameynaynaa wax yaraan hoos x positionka waa bedeli xagga u skinaynaa kasto. okay soo widen waa skin karnaa iyaduna. marka waxaan sameynaynaa wax yaraan markaas hoos soo degaynaa. meeshan size-ka waa furaynaa, waxaan ka dhigaynaa iyadana auto aan ka dhigaynaa. okay kadib x positionka marka waxaan sameynaynaa soo x positionka waa la ekeysiinaynaa. sidoo kale widen waa la ekeysi intaan dhinacan midigta wax yar u skinaynaa hal mar. okay wax yar hoos u dejinaynaa. okay soo x positionka marka midigtaan u skinaynaa. okay wax yar. okay saanaan ku dhaafeynaa. marka hadda waxaa ujeedaa si perfect inuu la ekaaday. tagastigan waa ku dhufanaynaa qalinka, isaguna waxaan sameynaynaa style aan tagaynaa. sidoo kale fountiga cabirkeeda ayaa yareynaynaa, sizekan yareynaynaa hal mar. wax weyn looma baahno. soo mar walba websitekaada inuu isla ekaado qurxanaada fiican. okay marka waxaan sameynaya kuwaan oo dhan marka soo marka waxaa sameysaa hal mar waxaan ku fiirinaynaa tablet ahaan. okay hal mar waxaan ku dhufanaynaa meeshan ay ku qoran tahay edit section. sawirka xoogaa waxaa ujeedaa inuu isbedel u baahan yahay. soo marka style ayaan tagaynaa. meeshan expositionka waa ka maamuleynaa kasto. sidoo kale qoraalkan waa yareynaynaa, qalin kale ku dhufo bis adoon waxba bedelin. kadib meeshaana taabo graphic ama size-ka oo qoraal ka yareyn kartaa. soo saasaan intaasaan la ekaysiinaa. okay marka xigta wax walba ay hagaagsan yihiin. soo marka intaana iskaga dhaafeynaa, farahan ka qaadana. kuwan kale waa bedeli kartaa iyadana. soo kan haddaa rabti inaad sawirkan aad bedesho keliya waxaa sameynaya qalinkaas ku dhufan kartaa. xagga oo maxaa la meesha waxaa ka bedeli kartaa ciwaanka. sidoo kale ciwaankaba soo qaad waxaan leenahay qof dumar aan iskaga qoraynaa magaceeda Sahra camal aan leenahay. sidoo kale sawirka haddii waxaan leenahay inta CEO kaba soo qaad. soo wax oo dhan waa bedeli kartaa meesha. marka sidoo kale sawirka waa bedeli kartaa iyaduna. soo sawirka hal mar haddii aan ku dhufto sawirkaan soo qaadanaa, tusaale ahaan soo qaadanaa sawirkaan ku dhufanaa kadib insert media aan leeyahay. sababkaas fiir sawirka is bedelay. sidoo kale marka haddii aad rabto social media inaad wax ka bedesho ayadana qalin kale ku dhufo. waa kuwaas linkiyada xaggaas soo dhigi kartaa. midkaas waa ku dhufanaa linkigiisa halkaas soo gelin kartaa. kan kale linkigiisa halkaas soo gelin kartaa. waxoo dhan saasa marka u bedeli kartaa. soo marka waa iska xireynaa marka intaas aan sameyno maadaama wixii dhammaan aan hagaajinay. waxaan ku dhufanaynaa update saan shaqada u save gareysano. soo saa u daawato waxa aad bedesho waxaa ku dhufataa preview. okay sidaan ayuu marka noogu soo baxay page about us markaasi wixii aan ka bedelno dhan. soo markaan u gudubno step ku xiga. soo step sideedaad waxaan ku arki doonaa marka qaabka loo dhiso page-ka contact us-ka. soo saan u dhisno marka hore waxaan sameynaynaa waxaan ku dhufanaynaa markaasi page-ka contact us-ka ayaan ku dhufanaynaa. soo marka aad ku dhufato sidaan ayuu u soo baxaa. soo marka saan u edit gareyna waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay edit with Elementor. soo edit with Elementor markaad ku dhufato sidaan buu kugu soo baxaa. waxaad ku dhufataa marka meeshan ay ku qoran tahay edit section oo markaasi 6 dhibcood ahaan. kadib waxaan tagaynaa markaas style. soo style markaad tagto meeshaan aan furaynaa hal mar positionka waxaan leen difficult soo sawirku soo muuqdo. okay marka sawirka saa u bedelna waxaa sameysaa isaga laba jeer ku dhufo.
waxaan sameynaynaa marka sawirkii markaas aan pages kale u isticmaalayaan iska soo qaadanaynaa. haddii kale sawir cusub aad soo dhigan kartaa. soo sawirka ku dhufo. markaad sawir ku dhufato waxaa dhahdaa insert media. okay soo marka waxaan furaynaa marka meeshan position horteeda, kadibna waxaan ka dooranaynaa custom. soo custom markaa ka doorato expositionkan markaas dhinaca midiga waxaan u sikinaynaa. sidoo kale hal mar widena kor ayaan u sikinaynaa. soo marka intaas sameynaa waxaan sameynaa marka background waa xiraynaa. waxaan furaynaa meesha aan ku qorantahay background overlay. kadib marka meeshaasi colorka ayaan furay hal mar ku dhufanaynaa. soo colorka marka waxaan ka dhigaynaa tiq sawirka saa ujeeda aad looma arkayo midabkiisa oo xoogaa waxaa saaran shuushuuc ayaa saaran. soo marka waxaan sameynaynaa locationkana hal mar kor u qaadeynaa. soo saa ujeeda hadda waa usoo baxay ama midkan kale ayaan hal mar kor u wadeynaa isaguna hoos. soo hadda pageka si qurux badan ayuu markaas noogu soo baxay. sawirka marka haddii markaas aad rabta cadaan waa saari kartaa, waa yara qarin kartaa. soo meeshaan marka waxaan siinaynaa wax yar oo cadaan aan siinaynaa. okay soo marka intaas sameysa wax yar oo soo deg marka meeshaan marka maapkaani marka uma baahnin waa iska dileedina. soo columnka dulta right click dheh. right click markaa dhada kadib waxaa dhahdaa delete. soo sidoo kale qoraalkan saa u bedelna waxaan sameynaynaa tagastigan ayaa hal mar ku dhufanaynaa qalinka. soo qalinka markaa ku dhufato meeshaas marka titleka sawirka waa ka bedeli kartaa, intana titleka waa ka bedeli kartaa. soo titleka locationka waa meesha aan deganaa waa noo saxan yahay. waxaan sameynaynaa marka meeshaan hoose ayaan bedeleynaa oo waxaan ku qoraynaa addresskana. soo ana hadda magaalada ayaan iskaga qora. adiga marka addresska ama goobta aad degantaa waa ku qori kartaa si markaas dadka locationka aad u arkaan. sidoo kale kana waxaan sameynaynaa qalin ku dhuf isaguna. soo meeshaan waxaan gelinaynaa numberkeena, 2 number waa gelin kartaa. soo marka aniga hal number aan iska isticmaala. soo markaa numbergiisa sidoo kale kana waan ku dhufanaynaa qalinka isaguna. inta waxaan gelinaynaa markaas kaba soo qaad emailka markaas ay rabaan dadka markaas inay nagala soo xiriiraan. soo emailkeena ayaan halkaas gelinaynaa. soo business emailka marka saa camal haddii aad rabto inaad sameyso video ayaan ka sameynay youtube-keena oo kale waa daawan kartaa. okay soo marka xigta waxaan sameynaynaa kan marka hal mar qalinkan ku dhufanaynaa saanko u hagaajino kuwan. soo saa ujeeda marka wax kale ayaa noo sameysan markaas oo dhan waa iska dileedeynaa. waxaan ku tusaa qaabka form loogu soo darsado markaas contactigan. soo qalinkan dulta waxaa dhahdaa right click kadib waxaa dhahdaa delete. soo markaa delete dhahdo meeshaas sage waxaa raadinaya marka wujid loogu magacaabo form ayaa ku qoraysaa. soo elementary bar marka formka waa soo jiidaysa inta soo dhig. soo elementary bar ayaa markaas noo sahlay inaan markaas formkan aan helno. soo saan u hagaajino marka formka. tusaale namekan waa ku dhufanaynaa hal mar. waxaan sameynaynaa magacyada kore waa aqrinaynaa wixii oo markaasi placeholderka magaca bisantaana. soo meeshaan label horteeda magaca waa ka tiraynaa. okay xaggaasaan ku dhaafaynaa nameka. emailkan ku dhufanaynaa meesha labelka magaca waa ka tiraynaa isaguna. sidoo kale messagekan isaguna hal mar aan ku dhufanaynaa. waxaan sameynaynaa meesha labelka isaguna magaca waa ka tiraynaa. soo markaa sidaas aad sameyso hal midka koowaad waxaan sameynaynaa marka copy ayaan leenahay. waxaan kusoo darsanaynaa markaas kaba soo qaad row kale oo markaas aan kaba soo qaad phone qofka kaba soo qaad numberkiisa camal inuu noo soo qoro. ama kuwan waxaan af Soomaali ahaan waa ka dhigin kartaa haddii aad rabto phone. soo markii intaas aad sameyso hal mar haddaan xiro fiiri marka waxaa ujeedaa si qurux badan inuu noogu soo baxay. soo magaca phoneka emailka iyo fariinta. soo marka waxaa sameysaa meeshaan marka ay ku qoran tahay message iyadana waa hagaajinaynaa. soo kaba soo qaad waxaan tagaynaa marka meeshaan ay ku qoran tahay email hal mar furaynaa. marka meeshaan waa muhiim kor waxaa gelisaa emailka markaas ay dadka fariin kugu soo dirayaan. badanaa asiga automatic ahaan u qaadanaya emailkaada, laakiin emailkaada waa hubin kartaa haddii aad rabto. emailka marka fariinta qofka markuu inta oo geliyo ee kusoo dhacays emailkaada geli. sidoo kale ciwaanka waa kaas hadhow isaga email kusoo dhacay marka qof kusoo diro. sidoo kale bottomka isaguna waa kaas qalinka bottomka qoraal ku qoran waa bedeli kartaa oo Sunday uu leeyahay waxaa dhihi kartaa kaba soo qaad dir waa dhihi kartaa oo kale. soo Sunday aan iskaga dhaafeynaa marka. soo bottomkan sidoo kale waxaa sameysaa markaas waad kusoo dari midabkiisa waa bedeli kartaa iyo asigoo dhan waa qurxin kartaa. soo marka waxaan tagaynaa hal mar style mar walba wixii qurxin ahaan. soo inta waa xiraynaa waxaan ka dooranaynaa bottom. kadib meeshaan background colorka waa bedeli kartaa si lamid ahaan. soo meeshaan aan dooranaynaa midabyadan soo qaadanay kaba soo qaad waxaan dooranaynaa guduud camal gaduud. soo marka intaas aad dhameysa marka waxaan fiirinaynaa qaabka mobile ahaan ugu muuqanayo. soo waxaan ku dhufanaynaa meeshaan responsive mode ka ahaan kadib waxaan sii dooranaynaa markaas mobile.
okay dadka visitorska mobile si ay u arkayaan website-keena. soo marka koowaad sawirka hagaajinayna edit section ku dhufo, kadib marka meeshaan position horteeda fur waxaa ka doorataa custom, laakiin still sawirka markaas yar marka waxaan sameynaa hoos aan soo wadayna hal mar meeshaan waxaa leenahay size horteeda auto ayaan ka dooranaynaa. good soo hadda marka waxaan sameynaynaa okay wax yar meeshaan marka walba la jiidaa way adag tahay. okay marka meeshaan exposition ka hal mar waa hagaajinaynaa oo kaasa, laakiin qoraalkiina anaga qarsoon marabna. soo waxaan sameynaynaa soo wax yaraan kor u wadeynaa at least qoraalkiina ku aado marabna. okay wax yar good soo saan ayaa wanaagsan marka. okay ama meeshaan laati iyo waxaa ka dhigi kartaa hoos u wadi kartaa laati. okay marka aan fiirino markaasi qaabka tablet ahaan uu muuqanayo isaguna. soo mobilka waa sida tabletka marka hal mar aan ku dhufano. soo tabletka isaguna waxaa leenahay markaas edit section aan leenahay. edit section waa uu ku dooran yahay. soo meeshaan custom nooga door position horteeda. sawirka mar koobaad aan yareyno horta hoosaan usoo degaynaa hal mar meeshaan marka waxaan siinaynaa waxaan leenahay auto. soo hal mar size-ka ayaa dooranaynaa mar custom ayaan leenahay. soo marka wirtiga anaga maamulayna hadda saa ujeeda cabalaca iyo waxaasi. soo marka haddaan ku aadinaynaa extra wax yaraan marka hore u qaadaynaa hal mar way okay cabirka waa weynaynay wayda hal mar aan ku aadinaynaa si lamid aan. good soo marka sida u dhameyso ugu aadiso shaqadaada waa iska xiraynaa. marka kan waxaan leenahay kaba soo qaad close ayaan leenahay. shaqadaada markaas save gareyso waxaa qabato waxaa leedahay markaas update. kadibna marka saa u daawato waxyaabihi aad bedesha waxaad ku dhuftaa meeshaan ay ku qorantahay preview changes. soo marka saa ujeeda website-keena sidan ayuu noogu soo baxaa waxyaabihii aan ka bedelno oo dhan. soo marka aan u gudubno markaasi stepka xiga. soo stepka 9aad waxaan ku arki doonaa marka qaabka loo sameeyo markaasi logo. soo si aan logo sameeyno waxaa aad tagtaa website-kan taabciso fur, kadib waxaa tagtaa logo maker macnaha ida ayaa meeshaasi ka maqan waa makr.com. kadib marka waxaa dhahdaa enter. soo website-kan marka waa iska free logo asiga ayaa markaasi aan ka sameysanaynaa. soo saa u bilaawno waxaa ku dhuftaa meesha ku qoran tahay start my design. soo start my design markii aad dhahdo markaasi inta ayuu ku keenaa. soo marka create a new design ayaan leenahay. ana hore ayaan wax u sameeyay kadib waxaa dhahdaa next waxyaabo ayuu kuu sheegaa sidii markaasi maadaama aad ku cusubtahay platformkooda. soo marka saan u sameeyna logada waxaan ku dhufanaynaa meeshaan tiida oo text u taagan. okay tiida markaan ku dhufana meeshaan waxaan ku qoraynaa marka qoraalka aan rabno. soo qoraalka aad ku qorayso marka waa magaca website-kaada wax kale maaha. kadib waa arki doonaa marka icon sida loo isticmaalo ama sida loo isticmaalo wax markaasi shape ahaan. soo marka meeshaan waxaa ku qoraynaa qoraalka markaasi magaca website-keena ayaan ku qoraynaa. okay soo marka qorto waxaa sameysaa hal mar highlight saar, kadib meeshaasi markaasi bidixdaada colorka doorasho guduudan doortay. sidoo kale haddana ku dhufo waxaa tagtaa marka meeshaan ay ku qoran tahay style tag. soo marka koobaad waxaan ka dhigaynaa soo hal mar ku dhufo marka waxaa tagtaa style. soo waxaan ka dhigaynaa b boldigaas u taagan. sidoo kale line wirtigan waa wadeena xoogaa markaas culeyska marka farta balac ahaan. okay marka xigta waxaan rabnaa marka icon oo baahanahay meesha staging-ka oo kore ayaan ku dhufanaynaa. markaasi waxaan raadinaynaa icon ku saabsan website-keena. waxaan iibinaynaa anaga saan hore u sheegnay harqaaniyo waxyaabaha. soo marka waxaan ku qoraynaa sewing machine oo markaas macnaha u taagan harqaan. soo erey af Soomaali ah hadaa qorti ma arkaysid ereyga af Soomaaliga ah markaasi Ingiriis loo bedel. soo sewing machine macnaheedu waa harqaan. soo marka waa kuwaana harqaanadan dhowrka ay u siinaa marka icon-nadan sawiradan soo midkaan rabaan soo qaadanaa. soo markaba soo qaad midkaan koobaadan isticmaala isagaan ku dhufanaa. waxaan sameynaa marka control z ayaa dhihi kartaa mar walba wax kaa qaldamaan. soo waxaan sameynaa intaa wax yar u sakinaa markaasi. soo
marka koowaad midabka waxaan ka dhigaa guduud, ama haddii kale waxaan sameynaa tagastiga anaan midabkiisan koobiyeyna koodhka soo kaasa hal mar highlighter saaraa right kaliga leeyahay, kadib waxaa leeyahay copy isagaan ku dhufanaa marka soo inta imaana waxaan leeyahay right kaliya kadib paste waa un isku mid. Okay, soo waxaan sameynaa marka waa yareynaa xogaa tagastiga asagoo isla ekeysiinaa soo hadhow markaas loogada website-keeda u yaraato mar walba yaray, hadhow saa xaggaa ka weyneyni kartaa dhib ma laha. Okay, waa yareynaa still soo marka aad saas u yaraaso still weli waxaan sameynaa kana waa yareynaa isaguna. Okay, marka intaas yareyso waxaa ku dhufataa calaamadaas ku dhufa hal mar, waan iska jaraynaa waxyaabaha geesaha oo dhan marka soo waa ku aadinaynaa marka inta sawirka bis rabnaa markaas qoraalka iyo loogada. kadib markaan sameeyno waxaan ku dhufanaynaa calaamadaas tigta. Okay, saa u save garayna marka shaqadeena waxaan ku dhufanaynaa meesha save logo, kadib waxaan leenahay meesha hoosaan ku dhufanaynaa ay ku qoran tahay markaas download low resolution png file. marka ku dhufato meeshaan tig ayaa saaraysaa saa markaas termskooda aad ugu aqbasho, kadib waxaa dhahdaa download free resolution file. midka macnaha free ahaan ayuu ku siinaa, laakiin hay haddii aad rabto inaad loogada soo dejisato waa inaad markaas lacag bixisaa mid baro ah haddii aad rabto. soo marka loogada sidaas ayaa noogu soo baxday. soo marka waxaan rabnaa marka xigta waxaan u baahanaa icon. soo iconka aniga ku tusaa hadhow meesha loo isticmaali doono. marka waxaan sameynaynaa qoraalka waa iska dileedeynaa keyboardkaada lee ka taabo dhib ma laha. marka waxaan ku dhufanaynaa calaamadii markaasi bala hoose ayaan ku dhufanaynaa. sawirka marka geesaha waa kasoo yareynaynaa waa kasoo jaraynaa. kadib markaan sameeyno waxaan ku dhufanaynaa calaamadan saxdahan. marka horta aan sawirkan xoogaa yar weyneynayna soo hadhow markaas maxaa lahay ula ekaado meesha. kadib marka geesaha wixii markaas waa kusoo aadinaynaa. Okay, marka inta sameysa calaamada sax saar hal mar meesha ku dhufta hal mar. soo marka sax sameysa waxaa ku dhufataa save dheh, kadib waxaa dhahdaa download low resolution file. kadib waxaa ku dhufataa meeshaas tig saar, kadib download free low resolution file leh. soo marka iconka sidan ayuu noogu soo egyahay. marka step ku xiga aan gudubno oo arkaynaa markaas qaabka loo isticmaali doono loogadan iyo iconkan. soo stepka 10aad waxaa ku arki doonaa markaas qaabka markaas loo dhiso markaas headerka, tusaale ahaan sida markaas loo bedelo loogada iyo sida loo bedelo calaamadaas kore ee site iconka. soo waxyaabahaas oo dhan saan u sameynaa waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay customize. marka ku dhufato sidan bay kugu soo baxaysaa. loogada saa u bedelna marka qalinkaas oo ku dhufan kartaa, haddii kale waxaad ku dhufan kartaa meesha ay ku qoran tahay site identity oo ku dhufan kartaa. site identity haddii aan ku dhufano sidan buu noogu soo baxaa, ama haddii kale qalinkaasaan ku dhufanaynaa mar koobaad saan loogada aan u bedelno. soo marka aad ku dhufato sidan buu kugu soo baxaa. halkan ayaa marka waxaa ka bedeli kartaa loogada. soo loogada waa taas halkaas ayay taalaa. saa u bedelna marka waxaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoran tahay change logo. kadib waxaan leenahay markaas upload files, select files. soo marka meeshaana waxaan soo dhiganaynaa markaas loogadii hore markaas aan usoo sameynay. soo loogada ku dhufo kadib waxaa dhahdaa open. soo kadib waxaa dhahdaa markaasi select. soo marka sawirkan xoogaa waxaa sameysaa marka la ekeysay dhinaca midigta iyo bidixda hal mar u kala siki geesaha. marka intaas sameysa waxaa dhahdaa crop image. Okay, crop image marka dhahdo loogada waa ay yar tahay cabirkeeda saa u jeedo. soo marka waxaan sameynaa looga wirtigan ayaa hal mar dheeraynaynaa. Okay, waxaan sameynaynaa marka midaas oo iska qarinaynaa meesha site title ay ku qoran tahay waxaan leenahay waa iska xiraynaa off aan leenahay. soo loogada balaceeda wax xiran ku daraynaa marka. Okay, good. soo marka hal mar aan fiirina marka tablet ahaan sida ugu muuqanayo. soo waxaan ku dhufanaynaa meeshan ay ku qoran tahay hoose oo markaas aan tablet. dadka hadhow tablet isticmaalo si u arkayaan. soo loogada saa u jeeda saas bay u arkayaan. waxaa maleysaa markaasi haddii arabna balaca waa ku fiiri karnaa meesha u dambeysay joogtaa marka si sax ugu aadan tahay.
soo marka mobile aan fiirinay isaguna okay dadka mobileka haystana saas ugu soo muuqanaysaa geeska ahaan soo waxaa sameyn kartaa wax yar xagga u skin kartaa okay no problem okay soo marka intaas aad sameyso kana sidii loo bedelo side icon soo saan u bedelna waxaan ku dhufanaa side icon meesha ku qoran tahay oo hoose soo side icon markaan ku dhufto waxaan leeyahay change image kadib waxaan leeyahay upload files kadib waxaan leeyahay select files soo waxaan soo qaadanaa calaamadii iconka ahayd oo markaasi aan harqaanka kadib waxaan leeyahay open kadib waxaa dhahdaa haddana markaas select soo marka waxaan sameynaa dhinacaan marka bidixdan uskina wax yar maadaama ay la ekaaneen soo sawirka mar walba iska yaray asiga kadib waxaa dhahdaa marka crop image soo saa ujeeda marka kor waxaa ujeedaa sawirka markaas inuu iska bedelay oo calaamadii iconkeena uu isticmaala marka shaqadaas u save garaysa waxaa ku dhuftaa meesha ku qoran tahay markaasi publish soo marka publish dhahda saan u daawana marka waxaad ku dhufataa calaamadan close soo marka iska xirto waxaa ujeedaa markaasi loogadii inay isbedeshay sidoo kale side iconkii koran inuu isbedelay soo markaan u gudubna stepka ku xiga isaguna soo stepka 11 waxaa ku arki doonaa sida loo sameeyo privacy policy page haddaba si aan u sameyno privacy policy page waxaa sameysaa waxa aad furtaa tab cusub kadibna waxaad markaasi aad tagtaa termsfeed.com sidaas bay u qoran tahay kadib waxaa dhahdaa enter soo enter markaa dhahdo inta ayuu keenaa wax yar markaasi haddii aan hoos soo degno meeshaan fiiri marka waxaan ku haysanaa dhowr waxyaabood waxaan ku haysanaa privacy policy waxaan ku haysanaa terms of use terms generator soo annaga haddii inaan marka waxaan u baahana aan abuurno privacy policy waxaan ku dhufanaynaa marka meeshay ku qoran tahay generate privacy policy soo inta ayuuna keenaa marka waxaan ku dhufanaynaa meeshan ay ku qoran tahay generate privacy policy soo marka su-aasha koowaad oo ku weydiinaya ayaa ahaan privacy policy maxaad u isticmaali doontaa website mase app soo aniga hadda waxaan dooranaynaa website kadib waxaan leenahay next step marka xigta wuxuu ku leeyahay URL-ka website-ka marka waxaan sameynaynaa waxaan booqanaynaa website-keena URL-ka ama linkiga markaas ayaan hal mar soo koobiyeynaynaa kadib waxaan leenahay markaasi control C ama copy kadib waxaan inta imaanaynaa waxaan leenahay right click kadib paste marka xigta meeshaan waxaad ku qoraysaa magaca website-kaada sidoo kale meeshaan wuxuu ku weydiinaa nooca markaasi aad tahay ma business mase shaqsi soo aniga waxaan leeyahay waxaan ahay shaqsi marka xigtana wadankaada doora ayuu ku dhahay soo waxaan sameynaa meeshaan waxaan iskaga qortaa wadankaada soo hadda aniga Soomaali ayaan iskaga qoraa kadib waxaa dhahdaa markaas next marka xigta wuxuu ku dhahaa macluumaad nooca ayaa ka aruurinaya dadka website-kaada soo booqda soo waxaan leenahay qofka markuu rabo inuu nala soo xiriiro waxaan ka aruurinaynaa email address-kiisa magaciisa iyo numberkiisa soo marka xigta wuxuu ka rabaa marka su'aalahani markii inaad ka jawaabto waa required waa qasab marka su'aalahana mar walbana waa inaad noo ah ku jawaabtaa badankooda haddii kale lacag ayaa markaas laga rabaa soo waxaan sameynaynaa su-aasha koobaad noo ayaan leenahay midda ku xigta waxaan leenahay iyaduna noo haddii marka yes aad dhahdo waa lacag sida meesha ku xusan saa ujeedo soo dhammaantood waxaan leenahay noo marka xigta meeshaan waxaan iska dooranaynaa Google Space sidoo kale kuwan waxaan leenahay iyaduna markaas noo sidoo kale tanna waxaan leenahay noo still waxaan leenahay noo marka ugu dambeysa wuxuu ku leeyahay markaasi sidee bay markaas dadka website-kaada soo booqda markaasi ay kula soo xiriiri karaan soo waxaan leeyahay ko waxay ila soo xiriiri karaan by email ahaan oo meeshaan waxaan ku qoraa email address-keedan ku qoraa soo markii intaad emailkaada geliso wax yar hoos soo degaysaa sidoo kale inta waxaa gelinaysaa haddana phone numberkaada iyaduna tigaa saare macnaha aniga labadan ayaa doorta adiga midka aad rabto waad dooran kartaa afartaasi meesha ku xusan marka intaas sameyso waxaa leedahay next step soo marka wuxuu ku weydiinaa marka waa meesha ugu dambeysay email address-kaada geli inta saa privacy policy-ga u hesho soo email address-keena gelinaynaa kadib waxaa dhahdaa markaasi generate
soo hadda waxaa ujeedaa in privacy policy oo noo sameysmay. Marka hoos soo deg waxaa ku dhuftaa meesha ay ku qoran tahay copy this to clipboard. marka waxaan tagaynaa website-keena ayaan booqanaynaa qaybta backend-ga ayaan tagaynaa. waxaan u baahnaa inaan page cusub aan abuurno oo privacy policy aan maadaama aan soo sameysanay. so inta ayuu ku keenaa. marka waxaa dhahdaa pages kadibna waxaa dhahdaa all pages. inta aan privacy policy abuuran marka hore waxaan sameynaynaa hoos isu degaynaa pageka hore u yaala. markaas ayaan iska dileedeynaa page ayaa hore noogu sameysnaa oo mar walba website-ka wato. so waxaan leenahay pageka trash ayaan ku dhufanaynaa meesha ay ku qoranta oo macnaheeda aan delete. kadib waxaan leenahay markaas add new ayaan leenahay. so add new markii aad dhahdo meeshaan waxaa ku qoraysaa marka pageka magaciisa oo waxaa waaye markaas privacy policy pageka aan rabno inaan sameyno. marka xigta waxaa ku dhufataa marka meeshaan calaamadan balaaska ku dhufo. kadib meeshaan waxaa ku qortaa html. so html ku dhufo marka. so waxaan tagaynaa marka oo privacy policy aan ku laabanaynaa. waxaan ku dhufanaynaa copy this to clipboard. waxaan u baahanaa code-kan oo html-ka. inta imaanaynaa marka waxaan leenahay right click kadib waxaan leenahay paste. okay marka intaas sameyna waxaan ku dhufanaynaa publish. kadib waxaa leenahay marka view page saan u daawano markaasi pageka privacy policy inuu noo abuurmay in kale. okay so meeshaan saa ujeeda waxaan ku haysanaa privacy policy pageka aan sameysana. so hal mar haddii marka aan hoos usoo degno waxaa ujeedaa marka meeshaan contact aska macluumaadka aan ku qornay numberkan emailkeen inay kasoo muuqato. so markaan u gudubna stepka xiga iyo qaabka privacy policy aan loo isticmaalo waa arki doonaa oo qaybta footerka loo soo dhigto. so markaan u gudubna stepka xiga. so stepka 12 waxaa ku arkaynaa marka qaabka loo hagaajiyo markaasi qaybta footerka ee website-keena. so horey waxaan usoo aragnay qaybta markaas stepka 10 qaabka loo hagaajiyo headerka. so haddana waxaan baranaynaa qaabka loo hagaajiyo markaasi qaybta footerka. so saan u hagaajina marka footerka marka footerka website-keena hadaa booqano qaybtan ayaa marka waxaa loo yaqaanaa footerka. so marka footerka saan u hagaajino waxaan ku dhufanaynaa meeshaan ay ku qoran tahay markaasi customize. so customize marka ku dhufato waxaan kusii dhufanaynaa meeshaan ay ku qoran tahay footer builder. so waxaan sameynaa kuwana waa iska xireynaa hide ayaan leenahay. okay meeshaan marka hal mar aan fiirino waxaa meeshaan marka noo sameysan kaba soo qaad 4 widget ayaa noo sameysan. so marka koobaad saan widget koobaad u hagaajina waxaan sameynaynaa markaas isaga ayaan ku dhufanaynaa. so widgetka koobaad saa u hagaajina marka waxaan sameynaynaa meesha waxaa noo taala laba qayb. so midkan dambe ayaan iska dileedeynaa. waxaan ku dhufanaynaa calaamadan 3 dhibcood kadib waxaa leenahay remove legacy widget. kadib waxaan sameynaynaa marka qoraalkan ayaan bedeleynaa. so meeshaan kaba soo qaad title-ka ama ciwaanka hore waxaan ku qoraynaa kaba soo qaad about us oo markaas wax ku saabsan qaybta markaas website-keena. so qaybtan description-ka marka waxaan ku qoraynaa macluumaadkan. so marka waa boogsiinaa. so marka widget koobaad aan saas u hagaajino waxaan ku dhufanaynaa marka publish saan shaqadeen iyo waxyaabahaas aan u save gareysano. so next waxaa arkaynaa marka qaabka loo hagaajiyo markaasi widgetka labaad. so saan u hagaajino isaguna waxaan sameynaynaa calaamadan gadaala u laabanaynaa. haddana waxaan ku dhufanaynaa widget 2. so widgetka labaad markaa ku dhufato sidan buu kugu soo baxaa. waxaan sameynaynaa marka hal mar ayaa waxaan ku dhufanaynaa calaamadan 3 dhibcood kadib waxaa leenahay remove legacy widget. so marka ku xigtaan u gudubna haddana widgetka saddexaad. so waxaan tagaynaa widget 3 meesha ku qoran tahay. so widget 3 isaguna waa ku dhufanaynaa. so markaa ku dhufana meesha menu-ga dooro ayuuna leeyahay. waxaan ka dooranaynaa no important ma waxaan ka dooranaynaa main menu oo markaas inay noo soo baxaan rabnaa page-kii waxyaabahaas oo dhan. so marka xigta marka waxaan arkaynaa widgetka labaad hal mar ku laabanaynaa qaabka loo bedelo. markaas waxaan arkaynaa loogadan iyo sidoo kale so qaabka markaas waxaan arkaynaa loo bedelo loogadan iyo sidoo kale social media linkiyo waxyaabahaas lagu soo daro. so waxaan sameynaynaa waxaan ku dhufanaynaa loogada. okay marka ku dhufato loogada waxaa sameynaysaa isla iyada kusii dhufaadana kadib waxaa ku dhufataa meeshaan ay ku qoran tahay calaamadaas remove-ka aan ku dhufo oo
exta kadib saa loogadan ugu soo darsata marka waxaa dhahdaa add media meesha ku qorantaa ku dhufo. soo loogadii hore aan usoo samaysana soo qaadana isla ayadii ku dhufo. kadib waxaa dhahdaa insert into post. soo loogada sidaas noogu soo muuqata. marka waxaa sameynaynaa qoraalkan waa iska tiraynaa ku dhufo. kadib waxaa dhactay tir markaasi okay. marka xigta aan sugna hal mar wax yar okay. soo marka xigta social mediaska aan fiirin iyaguna si loo hagaajiyo. soo waxaa sameysaa qalinkaas le ku dhufo bis. kadib marka inta ayaad ka bedeli kartaa midka aad rabto. tusaalahaan kaba soo qaad kan haddaan rabo inaan iska xiro waxaan ku dhufanaa calaamadaas close-ka aan ku dhufanaa okay. haddii aad rabto marka inaad kaba soo qaad linki aad kusoo darsato social mediahan aad ku xirto websitekaada, tusaalahaan Facebook camal oo ku dhufanaa. kadib meeshaas waxaan soo dhigaa URL-ka ama linkiga pagekeeda ayaan soo dhigaa. haddii marka aad rabto inaad social media icon kale aad kusoo darto haddaad rabto marka social media kale icon inaad kusoo darto meeshaas ayaad furaysaa. waxaad ka dooranaa kaba soo qaad Telegram aan dooranaa. kadib waxaan leeyahay add social icon. soo fiiri marka halkaas ayuu Telegramkii kasoo muuqday. marka xigta aan aragnay qaybta u dambeysa ahna widgetka afraad si loo hagaajiyo isaguna. soo waxaan ku dhufanaynaa widget 4. soo widgetka afraad marka waxaa sameynaynaa important linkskan waa iska dileedaynaa hal maraan ku dhufanaynaa. kadib waxaan leenahay calaamadaas saddexda dhibcood ku dhufanaynaa options. kadib waxaan leenahay remove legacy widget. soo marka waxaan ku dhufanaynaa calaamadan pluska. kadib waxaan leenahay heading. meeshaan marka waxaan ku qoraynaa important linkska qoraalkii ayaan ku qoraynaa titleka ama ciwaankii. marka qoraalka sidaas ugu qorto waxaa sameynaysaa marka waxaad ku dhufanaysaa meeshaan ay ku qorantahay H2 horteeda markaas ayaan furaynaa. kadib waxaan dooranaynaa H4 okay. marka xigta waxaan ku dhufanaynaa calaamadaas bagalaaska. haddana waxaan meeshaas kore aan ku qoraynaa wax la dhahayo markaas list camal. listigaan soo qaadanaynaa ko marka meeshaan waxaan ku qoraynaa pageska iyo importantiga ahaa muhiimka noo sameysana sida privacy policy. marka qorto haddana waxaan leenahay enter. waxaan ku qoraynaa terms of service. haddana waxaan leenahay enter. waxaan ku qoraynaa terms of condition. soo marka waxaan arkaynaa qaabka pageka privacy policy ahaan markaasi aan linkigiisa usoo dhigno. soo hal mar waxaan sameynaynaa waxaan booqanaynaa websitekeena. kadib waxaan tagaynaa qaybta backendiga. soo waxaan sameynaynaa meeshaan privacy policy horteeda ayaan waxaan ku dhufanaynaa view ayaan leenahay. soo URL-ka pagekana koobiyeynaynaa right click copy ayaan leenahay. kadib inta imaanaynaa textigana highlight saaraynaa. soo meeshaana marka waxaan furaynaa ay ku qoran tahay linki. soo inta ayaan soo dhigaynaa right click. kadib waxaa leenahay paste. soo marka waxaan u furaynaa tab cusub aan ku dhufo. aan u furaynaa qofka markuu hadhow ku dhufto tab cusub oo furmaa. kadib meesha submit ay ku qoran tahay ku dhufo. soo marka hadda fiiri marka privacy policy-ga haddaad dul taga link ahaan ayuu isku bedelay. soo marka kuwaas kalena saasa usoo dhigi kartaa. marka waxaan leenahay publish. saa wixii aan u save garaynaa. kadib waxaan leenahay calaamadaas close-ka ku dhufanaynaa saa iskaga xirno. soo marka wax yar hadda haddii aan hoos usoo degno qaybta footerka waxaa ujeedaa inay isbedesho. waxaan ku dhufanaynaa calaamadan markaasi kaba soo qaad privacy policy-ga. soo hadda waxaa ujeedaa marka privacy policy-ga inay markaasi noo sameysmay. soo marka qaabkaasa footerka markaas aad u hagaajin kartaa. soo markaan u gudubno stepka xiga. soo stepka 13 waxaan arkaynaa marka qaabka loogu xiro payment method websitekaada. oo maxaa laga wadaa payment method? tusaale ahaan dadka raba inay markaasi wax online kaaga iibsadaan see markaas online ugu iibsanaan. hadda waxaan aragnay si productiga loo abuuro websiteki loo dhiso waxyaabahaas oo dhan. qofka markuu sheegaan productiga ku dhufto soo kaaga iibsanaa marka in lacagta kugu soo dhacaysa. soo marka waxaan kugu tusaa videogan qaabka markaasi loogu xiro. soo tusaale ahaan marka waxaan tusaale usoo qaadanaynaa productyada mid kamid ayaan ku dhufanaa. soo productigan aan ku dhufanaa oo waxaan fiirinaa productigan inaan iibsan karnay in kale. soo waxaan ku tusaa macnaha inaysan hadda wax payment method ah noogu xirnayn. soo waxaan leeyahay productiga marka inaan iibsado markaan rabo
add to cart ayaan leeyahay oo sida qofka caadiga u iibsan lahaa inaan iska dhigaa. soo kadibna waxaan leeyahay markaas view cart. soo marka inta sameyso waxaa sameysaa hoos soo deg haddana processka oo socdaa proceed to check out page-ka markaas ugu dambeeya ayuu nageynaa oo check out-ka loo yaqaano. okay soo marka meeshan hoose maxay leedahay marka sorry it seems that there are no available payment method for your state. macnaha wuxuu ku leeyahay macnaha waxaa meeshan kuma xiran wax payment method ahaan marka ku xir ayuu ku dhaasay qofka markaas wax uu iibsado. soo marka waxaan sameynaynaa marka payment methodka marka aan ku xiran doono waa maxay. waxaan ku tusi doonaa qaabka marka loo isticmaalo plugin oo WooCommerce ahaan oo PayPal la dhahay. soo waxaan tagaynaa qaybta markaasi plugin-diga ee website-keena. kadib waxaan leenahay markaasi plugins ayaan leenahay. kadib waxaan leenahay add new. soo waxaan isticmaali doonaa markaasi plugin oo loo yaqaano markaasi PayPal kaasoo naga caawin doona marka inaan payment method ku xirno. soo meesha waxaan ku qoraynaa marka PayPal gateway ayaan iska leenahay mase PayPal WooCommerce. soo pluginkan u baahanaa waa kana marka ay ku qoran tahay WooCommerce PayPal checkout payment gateway. soo pluginkan marka saa ujeeda 500 kuna la soo degtay. sidoo kale waxaa power gareeyay WooCommerce. marka waxaa leedahay install. kadibna waxaa leedahay markaas activate. soo markaad activate dhahdo waxaa dul tagtaa markaas WooCommerce dul tag. kadib waxaa sii doorataa setting-ka tag. soo setting-ka marka aad tagto waxaan ka dooranaynaa meeshan ay ku qoran tahay payments ayaan ku dhufanaynaa. soo payments marka aad ku dhufato waxaa sameysaa wax yar hoos soo deg. soo waxaa ujeedaa marka meesha inay hadda noo soo gasho PayPal checkout. marka haddaadan pluginka ay haysan meeshan PayPal kama soo muuqanayso. pluginka waa inay caadi ula soo degtaa. soo marka saa PayPal-kan ugu xiran waxaan leenahay manage. soo marka inta ayuu ku keenaa meeshan marka waxaa ku dhufan ay ku qoran tahay set up or link an existing PayPal account. aniga hore ayaa waxaa igu sameysnaa PayPal business account ayaan hore u sameystay. kadib waxaa dhahdaa markaas leave. asiga macnaha inta waa ka tagaysaa shaashadan asiga hadhow kugu soo celinaya dhimalaha. soo inta ayuu ku keenaa meeshan wuxuu ku leeyahay marka waxaad gelisaa email address-kaada geli saad marka PayPal iyo WooCommerce iskugu xirto. kadib meeshaan wadanka ka doora. hadda aniga wadankan ayaa ii dooran. soo marka adiga wadankaada doora hadda wadan kale kuu soo baxsho. kadib waxaa dhahdaa next. soo isla asigii haddana inta kugu soo celiyay wuxuu ku leeyahay marka login dhe maadaama hore oo emailkii ugu sameysnaa. soo waxaan gelinayaa emailkeeda iyo passwordkeeda. kadib waxaan leeyahay login. marka login dhahdo haddana waxaad kusii dhufataa marka meeshan ay ku qoran tahay agree and connect. kadib waxaa dhahdaa marka go back to WooCommerce developers. kadib waxaa dhahdaa that's my site redirect me macnaha website-keeda waa kaasi linkigaasi ee dib igu celi. soo qaybta gadaal ayuu haddana nagu soo celinaa. soo marka hadda saa ujeeda meeshaan waxaa noogu xiran marka PayPal way noogu xirmata. hal mar haddii aan payments ku dhufano waxaa ujeedaa qaybta hoose in PayPal ay noogu xiranta. marka waxaan booqanaynaa website-keena taab cusub aan furaynaa. waxaan tusaale usoo qaadanaa marka productyada mid kamid ah ayaan fiirinaynaa markaas inay ku xirantay PayPal iyo in kale markaas oo qofka markaas online wax uu ku iibsan kara annagana ee lacag noogu soo dhacayso. marka sida hadaayo waa tijaabinaynaa. waxaan leenahay add to cart. kadib waxaan leenahay view cart. kadib marka hoos soo deg meeshaan productyada 3 isi waxaan sameynaa marka tan 3 jeer iibso dhaa marka laba iska dil waa iska xiraa taas. aniga hal mar leen rabaa kuwaanta tagina iibsado. soo marka waxaa dhahdaa proceed to check out ku dhufo oo page-ka check out-ka u dambeeya ayuu na geynaa. okay soo marka meeshaan aad joogto marka waxaa ujeedaa marka meeshaan inuu ku leeyahay pay via PayPal oo markaas aad ku bixin kartaa PayPal. tusaale marka haddii lacala aad rabto inaad tagastigaan ama qoraalkan iska bedesho waa bedeli kartaa. soo see u bedelaynaa marka waxaa ku laabanaya qaybta WooCommerce hal mar ku laabo PayPal checkout horteeda waxaad ku dhufataa manage meeshay ku qoran tahay. soo kadib meeshaan description-ka waa bedeli kartaa oo ku leeyahay ku bixi PayPal oo waxaan ku qoraynaa marka ayadoo af Soomaali ku bixi PayPal ama markaasi credit card. kadib marka waxaa yar hoos soo deg.
waxaad ku dhuftaa marka save changes saan waxaan shaqadeen u save garayno. So waxaan sameynaynaa marka hal mar waxaan fiirinaynaa productiga inta imaanaynaa kadib waxaan leenahay refresh inay isbedeshay in kale ayaan fiirinaynaa. So hadda marka saa ujeedo qoraalka uu isbedelay marka refresh dhana marka waxaan ku dhufanaa meeshan ay ku qoran tahay PayPal oo qofkii inuu lacagta bixin karo in kala fiirinaynaa. So saa ujeedo wuxuu geenaa PayPal ayuu geenaa. So marka code ayuu ii soo diray code-kana marka mobilkeeda ku soo dhacdo. So waxaan sameynaa 6 number meesha code-ka ayaan gelinaa 1. So code-ka markaan geliyay asiga qaab automatic ah lacagta bixi ku dhaha markaasi. So marka hadda saa ujeedo meeshan wuxuu leeyahay marka emailka iyo passwordka geli kadib login PayPal kadib lacagta bixi. Saa ujeedo meesha waxa ku qoran qiimihii shayga ahaa intaas ayaa qiimihiisa ay ahayd magacii shayga waxaas oo dhan. Marka aniga hadda ma bixinay close aan leeyahay tusaale yar ayaan ka siinay marka. So dadka marka Soomaali jooga badankoodu ma isticmaalaan credit card masterka waxyaabahaas oo dhan ma isticmaalaan PayPal ma isticmaalaan. waxaan rabaa inay wax online ku iibsadaan. waxaa sameyn kartaa marka badankoodina waxay online ugu iibsadaan qaab offline ahaan oo dadka lacagtina EVC waxyaabahaas ugu soo diraan. So marka stepka xiga arki doonaa qaabka loogu xiro website-kaada WhatsApp chat oo markaas qofka si toos ah kula soo xiriirayo oo marka shayga iibsada shayga iisoo dhiib ku dhahayo lacagta ku numberkaada caadiga kugu soo dirayo hormuudkii waxyaabahaas. So marka next step waxaan arkaynaa marka qaabka loogu xiro WhatsApp chat website-kaada haddii marka midkaani aad ka maaranto. So stepka 14 waxaan arkaynaa marka qaabka loogu soo diro WhatsApp chat website-kaada. So why aad ugu baahantaa marka inaad ku soo darto WhatsApp live chat website-kaada. Kaba soo qaadsan hore u soo sheegnay dadka badankoodu markaas ma awoodaan maba isticmaalaan qaab markaas payment method sida PayPal and credit card master waxyaabahaas inay markaas online ku iibsadaan. So marka qofka hadii rabo shayga inuu offline ku iibiyo markaas oo markaas qaab EVC waxyaabahaas lacag ku siiyo dadkaasi waxay si dhabeer kale soo xiriiri karaan marka WhatsApp-kaada oo website-ka markaas ka soo dhex muuqanayo. kadibna halkaas oo qofka lacagta ku bixin kartaa shayga delivery u soo sameyn kartaa ama u soo dhiibi kartaa. haddaba si aan taas u sameeyno marka waxaan u baahanahay inaan plugin-kan la soo degno. soo san ula soo degno waxaan tagaynaa qaybta backend ee website-keena. Okay marka qaybta backend ee website-kaada aad tagto waxaad dul tagaysaa plugins kadib waxaa leedahay add new. So add new marka dhada meesha waxa ku qoraysaa marka plugin loo yaqaan WhatsApp la iska qor. So plugin-ka u baahanaa waa kana marka waa midkaan 500 oo kun qof soo dejisatay. So marka waxaa leedahay markaas install now. kadib waxaa dhahdaa markaas activate. So waxa ujeedaa marka plugin-ka inuu inta ka soo muuqanayo sidoo kale dhinaca bidixdan inuu ka soo muuqana. So xaggaas aan ku dhufanaynaa marka ama haddii kale meeshan kale ee setting-ka aan waa ku dhufan kartaa oo isku mid. So plugin-ka sidaan ayuu noogu soo baxaa marka. So marka koobaad meeshaas waxaad gelisaa kor marka telefoon ay ku qoran tahay numberkaada mar walbana waxaad ka bilaabaysaa 06 ayaad ka bilaabaysaa 1. So marka intaas aad geliso waxaa dhahdaa meeshaasna sidoo kale wadankaada ka dooran kartaa. So aniga hadda Soomaaliyan jooga asiga qaab automatic ah u soo qabtay. So marka waxaa dhahdaa test number. So marka saa ujeedo WhatsApp-kan waa midkeeda soo waa isku hubinaysaa soo qofka dhowsan markaas number qaldan u galin. marka intaas aad samayso wax yar hoos soo deg markaas meeshan ay ku qoran tahay call to action marka horteeda waxaa samaysaa qoraalkan waa bedeli karnaa qofka marka WhatsApp ku dhufto fariinta yar ay soo boodaysaa oo marka waxaan ka dhigi karnaa kaba soo qaad Soomaali ahaan aan ka dhigaynaa oo intaan hal mar iska tirayna waxaan leenahay markaas sidee baan ku caawinaa. marka intaas aad samayso sidoo kale meesha marka waxaa sameyn kartaa midabka waa ka bedeli kartaa. So midabkiisa hadda iska dhaafayna hadhow aan ku tusaa si loo bedelo. sidoo kale meeshan header-ka oo leeyahay waxaan dooranaynaa WhatsApp logo oo powered by waa iska qarinaynaa. So marka intaas samayso waxaa dhahdaa save changes. So marka hadda tab cusub ayaan furaynaa marka waxaan booqanaynaa website-keena in WhatsApp markaasi uu ka soo muuqanayo in kale. good. So ujeeda marka meeshan ayuu hadda ka soo muuqdo WhatsApp hadaan ku dhufano qoraalkii waxyaabahaas oo dhan. marka xigtaan aragna qaabka color-kan loo bedelo. So u bedelna qaybta backend-ga ayaan tagaynaa.
marka koobaad waxaan bedelaynaa meeshan ay ku qoran tahay button delay-ga oo goorma ayuu soo muuqanaa. waxaan leenahay 5 daqiiqo 5 second kadib ha soo muuqdo WhatsApp-keena. sidoo kale meeshan theme color ay ku qoran tahay waxaan ka bedelaynaa midabka oo qofka markuu ku dhufto uu soo baxayo macnaha. marka inta sameyso waxaa dhahdaa save changes. okay page kan ku soo laabanayna marka waxaan leenahay marka refresh aan leenahay ina wax isbedelay in kala aan fiirnayna. soo marka haddii aan bottomka hoose aan ku dhufano good waxa u jeedaa marka inuu isbedelo qoraal midabkii iyo waxyaabahaas oo sidoo kale 5 second inaan sugeynay. soo marka qaabkaas aad WhatsApp chat ugu soo diri kartaa website-kaada. markaan u gudubno step-ka u dambeeya si ay tahay dheeraanaysa laakiin step-kan aan ku soo gaban doona insha Allah. soo step-ka 15aad ahna step-kan ugu dambeeya waxa ku arki doonaa sida xawaaraha markaas website-kaada kor loogu qaado. soo marka si ay tusaale ahaan dadka website-kaada soo booqanaysan markaas wax culays ay markaas jiid ah oo aysan u dareemin. soo marka waxaan u baahanahay plugin cusub. soo waxaan tagaynaa marka meesha ay ku qoran tahay plugins kadib waxaan leenahay add new. soo meeshan waxaan ku qoraynaa marka plugin cusub oo loo yaqaan Lightspeed. soo marka intaas la ku qorbis kadib waxaa dhahdaa search. soo pluginka u baahanahay marka waa midkaani ay soo dejisto markaas in ka badan 3 milyan oo qof. soo marka pluginka san soo dejisana waxaa dhahdaa install now kadib waxaa dhahdaa activate. soo pluginka marka uu la soo degtay wax shaqo ah markaas macnaha uma baahnid oo inaad adigu qabato isaga ayaa markaas qaab automatic ah website-kaada xawaarihiisa kor u qaada. mar walbana dadka website-kaada soo booqanaya xawaaro fudud dareemaan dabcan website-kaada waxaad helaysaa markaas traffic badan. step-kan ayaa marka ah step-kii ugu dambeeyay. soo inta haddii aad soo gaarto markaas hambaliyo. soo hadda waxaan baranaa qaabka loo sameeyo e-commerce website from start to finish bilow ilaa dhamaad. soo waxyaabaha aan baranaa marka haddii aan soo dul marno waxaa kamid ah step koowaad waxaan baranaa sida loo helo domain iyo hosting. step labaad waxaan baranaa sida qaybta backend ee website-kaada loo setup gareeyo. step-ka saddexaad waxaan baranaa sida markaas theme iyo plugins loola soo dego. step-ka afraad waxaan baranaa qaabka markaas products loo abuuro. sidoo kale step-ka shanaad waxaan baranaa sida home page loo dhiso. step-ka lixaad markaas sidoo kale waxaan baranaa sida store page loo dhiso. step-ka toddobaad waxaan baranaa sida about us page loo dhiso. step-ka sideedaad waxaan baranaa sida contact page loo dhiso. step-ka sagaalaadna waxaan ku baranaa sida markaas logo loo sameeyo. step-ka 10aadna sidoo kale waxaan baranaa qaybta header-ka ee website-kaada sida loo sameeyo. step-ka 11aadna waxaan baranaa marka qaabka loo abuuro privacy policy page. step-ka 12aad marka waxaan baranaa qaabka loo sameeyo markaas ama loo dhiso footer page qaybta footer-ka. step-ka 13aad waxaan baranaa sida markaas payment method loogu xiro website-kaada. step-ka 14aad waxaan baranaa sida WhatsApp live chat loogu soo daro website-kaada. step-ka 5aad ahna step-ka u dambeeya waxaan baranaa sida xawaaraha markaas website-kaada kor loogu qaado. soo hadaba si guud marka waxaan u baranay markaas qaab loo sameeyo website e-commerce bilow ilaa dhamaad. soo marka haddii website-ka inta guda jirta aad la kulanto wax cilad ah markaas ama aad u baahan tahay in website markaas e-commerce lagu dhiso. soo haddii markaas aad caawinaad ugu baahan tahay si guud website-kaadana waa nala soo xiriiri kartaa. waad noo soo weydiin kartaa wixii su'aal adigoo nagala soo xiriiraya qaybta WhatsApp-keena markaas ama wixii su'aal qabtay comment-iga waa nagu reebi kartaa. soo muuqaalka xiga iyo khayr badan.